أدباني السلام يا أصحاب تقاليقا سوى هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم أدباني دين السلام يا ميلكستو أجوكتان شعبك الصوماليات أوكي ميلكستو أجوكتان كرامة إيه شرفكم النورادة waxaan furanayaa okay aad baan idin wada salaamayaa korkiina karaama ha ahaato okay qalabkaygaan xirxiranayaa soo diyaar garooba in sha Allah باذن الله الكريم okay korkiina karaama iyo sharaf ha ahaato shacabka Soomaaliyeed inta wanaaga jecel اوكي واوض الديار صدي ان شاء الله باذن الله كريم ابان لما انت اللي دين وذا السلامه يا اصحاب تقاليق اهل يا قرابه سو دواده ان شاء الله aad baan idin salaamayaa soo dhawaada asxaab qaaliga With Metro and the new iPhone SE, you rule. Get the powerful iPhone SE for less than $50. Wait. soo dhawaada insha Allah. No one knows the secret. أبان الدين والسلام يا ميركز الجوتان شعب الصوماليات ولي خد كمان إدريس خلي هذا يا كيلو What happened? aad baan idin salaamaya soo dhawaada dadkeenu ma doohan yahay miyaan daayaheenu arag dhagarta laynagu waaniyo cadowga dhexdeena degay hay asxaabta qaaliga siday u dhammaynayaan dhallaankiiyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeena u daadiyan siday u dhammaynayaan dhallaankiiyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeena u daadiyan
lama dhowran kare dhawaaqa maqlo kacay maqla dhiidiyo kacay wixii dhig lahu kacay damiirku intaa kama khaldana dhalinyarooy kacay lambarka waxba kama khaldana asxaabta qaaliga ah soo dhawaada dhawaaqa maqlo kacay marquura dhiidiyo kacay wixii dhig lahu kacay walaashay ubax heestan waxaa la yidhaahdaa waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlo kacay anaa kuu soo diray insha allah isoo xusuus dhalinyarooy kacay يوالكم walaashay ubax aad baan kuu salaamayaa aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin diidaya aad baan idin salaamay walaashay maha waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlo kacay marqura dhiidiyo kacay wixii dhig lahu kacay intaanu dhin jana difaacni dhalinyarooy kacay barnaamijkan maanta waa muhiim waxa uu muhiim ku yahay dad masaakiina oo afrika jooga oo duruufi haysato oo carruur ah oo darbijiifa ama agoon ah ayaa la rabaa in laga soo faa'iidaysto xubnahooda organka iyo in lagu helo social media view si loo yiraahdo aabahay baa kufsaday dheh adeerkay baa kufsaday dheh waxaa inaga saaran waajib waxaan idin hayaa xogo badan oo aad iyo aad u muhiim ah oo ku saabsan Hana Abukar khatarta ay ku leedahay dadka Soomaaliyeed qaar baa waxay u arkayaan in gabadhani ay tahay yani gabadh easy gabadhani waxa ay ka daran tahay oo ka sii xun tahay maamadan diinta ka baxday ee nabiga iyadu tan way qaylisay oo tan waynu aragnay laakiin tan xijaab ay noo soo huwatay waa xaalad aad u xun marka ummadda Soomaaliyeed waajibka in saaran waliba dadka masaakiinta ee waxba haysan ee duruufta looga faa'iideysanayo waxa waajib inagu ah waad soo dhigan kartaa amiira inaabti waxa waajib inoogu ah qof kastoo Soomaaliyeed videogaagan wuxuu yahay free wuu soo dhigan karaa YouTube-kiisa anigu ma yahay dadka YouTube-ka lacagta ku sameeyo alxamdulillah rabbil caalamiin taydaaba iga badan oo ugu filan allahumma inni laka alhamdul kathiira marka qof kastoo Soomaaliyeed marka report gareynayo marka xaasidayo waa idin furan yahay waa qaadan kartaan waana faafin kartaan dhammaantiin soo dhawaada barnaamijkan maanta waa barnaamij very xasaasi ah waa barnaamij muhiim ah waa barnaamij loogu digayo ubad masaakiina oo duruuf haysato oo la doonayo in lagaga faa'iideysto duruuftaas inta $100 ama $50 la siiyo wax aan macquul ahayn laga duubo waa xaalad dangerous waa digniin ku socota Soomaalida degan wadanka Kenya iyo Soomaalida degan wadanka Soomaaliya meeshay doontaba ha ahaatee soo dhawaada asxaabta qaaliga دفعني دليلك محمد حسن هدانك قنعين برنامجك واد كبحسا بلوغ بان كساريا هدانك قنعين هدوك قنعين الداو صاحب
zuhuur in abtiday aad baan kuu salaamayaa dadkii lagu dhaaban jiray walaasha maryam jamaal aad salaan sare بليس ولي خد كمان فريا أصحابها دوران كاري دواقة مقلو كعاي مرغورة ديديو كعاي هدي الله كعاي بنتين تاني وحلا من دوران كاري دواقة مقلو كعاي مرغورة ديديو كعاي وحيدك له كعاد مركو انتانو ديو من انساني للي يروي كعاي اوكي برنامج كان انو ديرانا يا ملينا يا اصحاب تقاليقه وان idin loo bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنت مقعيك يا موقعيك بتقانا الشعب كالصوماليات أنت النعب يا أنت يجعل أنت التاجرسن يا أنت يقصو هرجدا لما أنت وحان نكون سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كركينا كرامها هاتو إلهي هايدن شرفو meel kasta joogtaanba Allah haydin xafido intii xanuunsan Ilaahay xanuunka ka dulqaado intii dhibaataysan Ilaahay dhibka ka dulqaado intii muraad lehna muraadkooda Allah u sahlo barnaamijkan waa barnaamij xasaasi ah Soomaaliyeey hadaan xirta sheekanahay dad badan ayaa waxay soo weydiiyeen su'aalo waxay yiraahdeen maxaad u furan weyday YouTube si aad lacag ugu heshid khidmadda aan dadka u sameeynayo Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni laka alhamdul katira wixii aan YouTube ka heli lahaa albaabka guriga markaan ka baxo wax aanan filayn oo waliba aad u waaweyn baa soo gala arsaaq tii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii qoray oo waliba si aada Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin walba si aada ii arsaaqo oo qeyr al-aqriya ayaa soo gasha Allahumma inni laka alhamd aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay baan u xamdinaqaya sidaa darteed ma aha in aan anigu codkaygan aan ku hadlayo aan ku raadinayo view aan ku raadinayo magac aan ku raadinayo inaan YouTube lacag sameeyo waan sameyn karaa YouTube lacag waan furan karaa laakiin YouTube wuxuu kugu kalifayaa in aad maalinna meel wax ka soo xadid maalinna naftaada ka been sheegtid maalinna diin gashid maalinna wax kala gashid maalinba wax isku tuurtid marka aad yaani arsaaqda YouTube run ahaantii arsaaq yaani lagu xisaabtamo maaha marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka magan galay YouTube-na ma furan mana furanayo waan leeyahay laakiin waxaan ma geliyo service-kan aan qabanayo waxaan u qabanayaa dadkay bacdama aan hayso opportunity badan bacdama alxamdulillah in nimceeye aan arsaaq iyo wax walba caafimaad guri deegaan wax walba nolol intii Ilaahay yaani qof bil aadmaysiyo oo dhan aan haysto waxaan door biday in aan u qabto wixii dhibaataysan ee la dhibaataynayo aan ka hortago oo codkayga aan gaarsiiyo barnaamijkaygan maanta wuxuu ku saabsan yahay Soomaaliyeey barnaamijkaygan maanta waxa uu ku saabsan yahay gabadha la yiraahdo Hana Abukar waxaan ka hadlay 3 jeer tiraba aniga waxaan ahay dad walaala oo bas fareen laakiin kuma naan walaaloobin inaan ku taageero dulmi inaan ku taageero waxyaalo ay xumaan sameeyaan Hana way khaladay qof salaama ayaan moodayay qof waxaan moodayay dhaqan leh يعني قف مد وحق بنسى مدة أيام بارتان كهاي هنا هانتي طبعا الصوماليات بعيلا عركي هانا برنامج هذا أي سود يسو وين وضع عرقي صومالي وحين ما أنت داهي نجس سارين هاي معها برنامج هذا صويع ما أنت مصيبة دعدي قبل بقى بهيد وصل قبل بقى ولا الكيد وصل قبل كلا لقفص قفص جوج جرا الصومالي وارهن ولبع عدالة حمح باك جرت
laakiin sida haano u samaynaysay barnaamijyada ma ahayn haano saan hore idinku sheegay waxa ay raadsataa dadka masaakiinta ah ee bermegetada ah ee jilicsan ee aadkii aadka u dhibaataysan dadkaas marka ay safar ku aado Soomaaliya caruuraha yaryar oo ogtihiin dhibaatada iyo gaajada hayso Soomaaliya dibadahaynu joognaa waa dareemi kartaan ilmo Soomaaliyeed oo baahan salaamu calaykum maxamed حياك الله كيف حالك كل شيء تمام الله يخليك ما شاء الحمد لله وحويان ودريمي كرتان dhibaatada iyo baahida taala dadkeena qurbaha joogo waynu dareemi karnaa dhibaatada taala wadankii ilma yar ayaa waxa la siinayaa $10 $10 ama $2 ayuu maanta dhan waxa la wixii la doono looga sameeysanaya haano waxa ay tagtaa wadanka Soomaaliya iyo Afrika Nairobi ilmaha dhibaataysan ayaa meelaha ka soo qabqabataa Yurub marka ay timaado caruuraha ay wax ku sameeyso ay tiraahdo waa la kufsaday soo yaaca aabaheeda kufsaday waa caruuraha daraagisku dilooday adagti ku noqday daraagiska kiniinada iyo waxyaalahaas ee banaanada taagan ayaa u timaadaa waxay siinaysaa $100 waxay dhahaysaa waxa tiraahdaa aabahay ayaa ay kufsaday barnaamij ayaynu sameeynaa barnaamijkaas marka aynu sameeyno barnaamijkaas marka aynu okay qofkii edab daran inoo qabto ayaa igu balana barnaamijkaas marka ay samayso waxa daawanaya 300 oo kun oo qof 300 kun oo qof hana qofkaas dhiban ee ilmaha ee yaani duruuftu hayso ama qaangaarka ah $50 ama $100 ayay sumcadiisii oo dhan u baabi'inaysa oo diiniyan iyo dhaqanba ay uga been sheegaysaa horta sida ay lacagta ku samaysaa qayb waa qaybta kale ee labaad waxa weeyaan waxa ay samaysay organization ay lacag ku ururiso Soomaaliya hal tusaale oo yar ayaan maanta idin tusaya haana markii ay tagtay Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tagtay waa la soo masaafray waxay ii soo dirtay sarkaalkii yiri wadanka ka bax mana joogis lambarkiisi iyo WhatsAppkiisi isla markiiba Djibouti bay carartay intii ayna Djibouti aadin ayaa waxa ay soo gashay YouTube-ka waxa ay tiri waxaan doonayaa inaad ila caawisaan maamadan wixii lacagana halkan iigu soo shuba waa idin la wadaagaya lacag aad u badan ayay maamadii u ururisay xiriir ayaan la sameeyay dadkii maamadaas okay ay qaba halkaas xiriir ayaan la sameeyay waxa dhacday wixii ay ururisay maamadii duruufnaysanayd ay u ururisay isla maalintii laba casho ka bacdi waxa la ka baxay Soomaaliland waxa ay tagtay Djibouti markii ay tagtay one bani ma ayna siin waa idin la wadaagaya Okay, so it turns out not all laptops are created equal, which is why yaa keeni kara cadayn inay maamadaas hadday maamadaas tiraahdo haana waa isiisay ana toontu waxaa goobjoog bixinay so you never get interrupted by updates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waa intii aan laga saarin Somaliland waa less than 2 days Soomaaliya ila fahna waxyaalahan ka hadlay الله وبركاته Soomaali weyn waa idin salaamay meel walba adduunka ka wada joogtaan waa walaashin hana ah waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idin salaamay waxaan hortaaganahay guri oo laga baahan yahay ee dhibaato ka jirta la soo sheegay anoo xaafadda maraya marka waxaan rabaa guriga albaabkiisa taaganahay mushadid guri wali ma gal albaabkiisa taaganahay waxaan rabaa dhibka iyo murugada maamadan hayso inaan soo arko wixii sadaqa aan ku caawin karna inaan ku caawino meel walba markaan taga inaan saa umad u caawiyo insha Allah sadaqadina waa soo baxsan kartid horta dhibaatada iyo caqabada meesha ka jirtaan wada ogaanaynaa hal ma idin salaami kara soo baxay raaca let's go okay let's go waa ku raacnay
اوكي isuga waa iska yaacaya qofkeeda daran aniga ma qoslo السلام عليكم anigu inta iga arkaysaa ma istimay inta iga arkaysaa ani daba soconid السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اوكي gabadhi bastahay waxaan jeclaan lahay meesha aad dhigantay inay ishiisida ay ka soo sheegay aad oo aad meelaha guriga aad halkan waa kushiinkiina annagana dabaqyaan degannahay aakharana waa laisku cadaabaa dadna saasay u nool yihiin buush ilaahaygi nafta i gashay baan ku dhaartay Soomaaliya ilaahay nafta i gashan ku dhaartay waysa ii dhowrane maamadaas reerka ay booqatay waan bani inaanay siinin waxay u urursay ilaahay baan ku dhaartay 99 magaca Allah baan ku dhaartay waan bani inaanay siinin degan yihiin buush kushiinkii waa kana halkan ma degan tihiin meeqa kaalintood intii soo istaag meeqa caruura haysataa sideed dhinac caruurta halkan maa fariisatiin ma halkan baa seexatiin ma labadan joodar baa ku jiifatiin sideed dhinac caruurta intii soo istaagba kaalinta soo yar istaag ani soo garab istaag daalimad ilaahay ka go'day maxaa tiri walaalo joodariga mada dhinacooda iyo kolba waxaan halaan iskaga jiibsanaayo barakada iyo iska baraka badan maayo waxaase noogu daraba meeshaanu degilayn fadalkaana laga saaro tu warba taasaa nagaga daran iyo lacag laygu leeyahay oon la cadilan okay maalinta maxaa cuntaan walba waxaa la nasiiya bariis qaraxa helnaya iska joognaya dee waa dadka ilaahay mooye aadama u shaqayn baa marka sideed caruur baa haysataa aabbahooda aaway aabbahooda u fakaday meeqaasana kugu dambaysay imaka 2 sano maadan arkin markaas labadii sanada caruurta la balaabalaayay Hello everyone. Okay. Soomaaliya okay isuga waa idinla sii wadaagayaa wali dugsi ma dhigteen iskool ma aadaan dawladda yar tagtada okay maasha allah tabaaraka allah marka maxaa lagu dhahaa ii sheeg intana meeqaasana degan tahay in badan baa degan ma ilaahay baa kugu dhaha halkaan qor sideed caruur jiifatay labada shaakir ciise sida barnaamijka abti share your page shaakir ciise nina aad u jeclaa abti big respect Allah ku xafido sii share garay barnaamijka xataa labada joodar bis 12 sano degan 12 sano halkaan laakiin imaka waa la dhisaya kulli hadda waa la dhisay hadda way noogu daran marka la yiraahdo waan ku asturnayna u qadnaya wax ku cunaya waan iskaga jiraa wixii haba la qaday qof uu meel leeyahay deganada wanaagsan horta marka ugu horeyso waxaan kuu saarayaa xijaabka aan xiranahay marada aakhirada iska saaro eeg xijaabkan xiranahay ku saaraya hana waxa weeyaan ilaahay waa igu og yahay يعني information kahana aan ka bixiyo
hadday noqoto mid beena oo dadka Soomaaliyeed oo markhaatigooduna aad u badan yahay dadkay dhibaataysay oo ka badan 200 oo qof oo qoysas ah ilaahay subxaanahu wa tacaala haana haddaan ka been sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa caradiisu inay igu dhacdo Soomaaliyay haana Abuukar waa qof ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed dangerous ku xaqiiqada dhabta barnaamijkeedu waxay soo daysaa soo yaacay may qaraaba mac gabar ba aabaheed kufsaday gabar ba walaalkeed kufsaday way bilowdaa ayna caawinay tiraahdaa meelay ku dhamaatay qofkii ii keeno lacag xaala oo golo jooga ayaan bixinaya oo waliba public Facebook aan ku dhiibaya ma jirto haana sheekadeedu waa bilow viewga hadday lacag ku helayso way ku gurtaa donationka way ku gurtaa laakiin meel ay sheekadii ku dhamaatay haana programkii ay bilowday meel ku dhamaaday qofkii ii keeno waxa weeyaan waxaan ku sheegayo dhami waa been waxa aan ku sheegay oo dhami waa been sidaa darteed wax badan ayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digay haddaan xirta sheekh ahay in qofkaas dangerous-ka alla iska qabto maxaa haddaba hadda soo cusboonaaday haano 3 wiik bacdi waxay u baxaysaa waddanka Kenya iyo waddanka Soomaaliya socodkeedii hore waxay doonaysaa inay tagto caasimadda Puntland ee Garowe waxay xiriir la lahayd wasiiru dowlaha cadaaladda Masar Ilyas oo cod ka duubay codad badan aan ka hayo od wada ogtihiin maanta ma raba inaan idin la wadaago horena waa idinku soo bandhiga dadka reer Puntland waa uga digay haana wasiirku ma oranayo waxyaalaha maafiyanimada ah ama dhaqan xumada ama diintu aan ogolayn ummadda ay ku dhibaataynayso ayuu wax kaga og yahay ma oranayo oo ma eedaynayo laakiin wasiirku markii aan iswaraysanay Masar Ilyas oo aad iyo aad isku yaqaanaan xoga badan gabadha umu haynin laakiin markii aan u soo bandhigay arimaheedii oo dhan wuu i garaystay wuuna arkay waxyaalahaas ay samayso sidaa darteed haano hadda 3 wiik bacdi waxay u baxaysaa safar waxa ay ku socotaa Soomaaliya iyo waddanka Kenya ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee Kenya ku dhibaataysan ee qaxootiga ah ee caruuraha yaryar waxaan uga digayaa dadka waalidiinta iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo maanta damiirkiisu nool yahay haano ha laga ilaaliyo ciyaalka arrin kale oo waxaan idin sheegayaa aad iyo aad u xun oo ugu walaahaya yaani waxa weeyaan inay laynka soo gasho ayaan fili doonaa gabadha ay ku tiri xubnahaaga organka kaliyahaaga mid baad iibsan kartaa oo waan ku hayaa caruuraha Soomaaliya jooga banaanka la iskaga sii daayaa saan idin sheegay haano dadka ay ka faa'iideysato waa dadka Yurub markay joogaan daraagisku dilooday ee wadada taagan video sida gabadhii Ingiriiska joogtay ee ay tiri aabahayba ay kufsaday dheh gabadhii ay tiri aabahayba ay kufsaday dheh waxay ahayd caruuraha daraagisku dilooday si ay view ugu hesho dadka Soomaaliya jooga haana marka ay tagto Africa ama ay Yurub ay timaado guryaha ay ku degto number 1 waxa ay weydiisaa waxa eegataa dumarka Soomaaliyeed ee masaakiinta ee single motherka ee waliba gabdhaha yaryar ee caruuraha lagaga baxsaday ama ninkii uu ku furo oo depression iska hayo su'aasha ugu horeysa ay weydiiso waxa weeyaan waxay tiraahdaa guriga nin muu joogaa nin haday guriga ku ogaato haana ma tagto taas waa mid laga wada og yahay dhammaan geyga Soomaaliyeed iyo meelaha tagto dhan waxa ay ka faa'iideysataa gabdhaha masaakiinta ee caruuraha laga cararay ee depression ku hay gurigaas ay tagtaa guriga markay tagtana wax alla iyo waxay doonto ay ka samaysaa waad ogeedeen gabadhii waddanka Germany joogtay gabadh dhalinyaro ah live baan ku jiraa oo soo wacaya okay waad ogeedeen gabadhii waddanka Germany joogtay ee miskiinta ahayd dhibaatadii ay ku samaysay gabar yar oo miskiina oo iska single mother oo dhibaataysan ayay kaarkeedii caafimaadka intay qaadatay
حتى مركي كاركيدي استعماشي أي كتري سي أن لعكت أبحي أنكوسيو كالي صفريس أو هو يدا كبين شيء أو برنامج أي كسميس سي أن فيو وهل gabadhaasi waa gabadha xogta ugu badan shakhsiyadda Haana Abuukar soo gudbisay Haana markay live ka soo gasho waa xijaaban tahay laakiin markay ka baxdo way tuurtaa alaabteeda hore ka miisata haddaba Soomaaliyeed waxaan uga digayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waddanka Kenya iyo Soomaaliyaba qofkii Haana Abuukar meel ku arko waa in aad video ka duubtaa waa in aad daba socotaa culimada Soomaaliyeed ee joogta Kenya iyo Soomaaliya gabadhaani waxa weeyaan way qarsoon tahay waxa ay halis ku tahay society-ga dadka bulshada ah dhaqan ahaan iyo diin ahaanba oo wallaahi gabadhaan hal laga taxadaro gabadhaan xaaladeedu waa xaalad aad iyo aad u xun ilma yar oo masaakiin oo duruuf hayso ayay $100 ama $50 siinaysaa oo ranaysaa kaale walaalkiiba ay faraxumeeyay ilmahaas gaajaysan wax walba ku hadlaya si ay fi uga hesho 6 bilood ay maqantay Haana balaankeedu wuxuu yahay in ay YouTube-keeda daawadaan 1.5 million people in ka badan less than 3 months inay daawadaan lacagta ay ka samayn karto isku wada dhufta wax ay ku xisaabtantay weeye ma jirto waxaad i tustaan qof Haano ay guri u dhistay ama qol u dhistay ama caawisay oo masaakiin oo agoona oo meel taagan ama qof naafa ama qof waayeela ma jiro qofkii Soomaaliga ah ee keena waxa weeyaan bartiisa ayaan xaal ku siinaya ilaaha khayr hasiyo waxa xalay ila soo hadlay dad aad iyo aad mas'uuliyiin sare ah markii aan soo galiyo barnaamijkeedii oo waddanka Kenya ah waxay iga codsadeen in aan siiyo magaceeda si ay uga xanibaan waddanka alxamdulillah rabbil caalamiin magacii iska dhaaf waxaan helay baasaboorkeedii waan idin la wadaagaya waanan u diray ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo dadka ila soo xidhiiray okay waka waxaan la wadaagay baasaboorkeedii aad u jeedaan Soomaa waxaan u diray baasaboorkeedii waad aragtaa waka wakaas waxaan la wadaagay baasaboorkeedii waanan u diray waxay ahaayeen dad sirdoonka Kenya ah laamaha ammaanka ee waddanka Kenya oo waliba Soomaaliya ballan waxay iga qaadeen in waddanka Kenya ay il dheeraada ku eegi doonaan ama ay xiri doonaan ama masaafirin doonaan si aynu uga faa'iideysanin caruuraha Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddanka Kenya haddaba yaan fariin u dirayaa waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan khaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed dhalinyarada ah caruuraha lagaga baxsaday iskan single motherka ah dhibaatadu hayso hooyo Soomaaliyeed oo ina dulmin ma jirto gabadha ay hadda gurigeeda la joogtay sira badan bay ka haysaa waa gabar masaakiina u dhalatay beesha reer Sheekh Saxaaq habar awal khadra la yiraahdo yani waxay ka duubtay ayay ka haysaa daas way ula joogtaa ilmaheedii iyo xitaa dhibsaday Soomaaliyeed waxaan idin ka digayaa maafiyadaas aad aragtaan in laga ilaaliyo caruuraha Soomaaliyeed ee duruufta hayso gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee single motherka ah ee guryaha ku dhibaataysan Yurub iska ilaaliya yaana idinka faa'iideysan ilaahay ba arsaaq bixiya barnaamijyada ay Haana duubta boqolkiiba boqol waa been hal qof oo ii keena haddaan helo wallaahi oo billaahi wax run oo ay sheegtay social media dambe ugu arkamaysaa social media dambe ma igu arkaysaa dhammaan dadka reer Kenya waxa ay mamnuuc ka tahay inay tagto Somaliland waxa ay mamnuuc ka tahay inay tagto Djibouti
labadaba waa laga mamnuuca xaaladeedana aad baa loo ogaaday xaaladeedana aad ayaa loo ogaaday Soomaaliya dhinaca Muqdisho marka ay tagto waxa ay gashaa meesha la yiraahdo xalane waxa ku xiran niman ay laptopyo u dirto ama ay $200 siiso oo iyaguna ah qayb maafiyada oo shopping u sameeya ilmaha meelaha ka soo qabqabta ama gabdhaha dhibaataysan oo yiraahdo kaale barnaamijkan samee Soomaaliya waxaan dhaqaale ku bixinayaa anigoo Cabdixakiin Cusmaan Nuur Xirta Sheekh ah oon idiin ballan qaadaya hoteelka ay degto qofka security-ga ah waxa ila soo hadlay hadda ka hor nin taksiila ahaa oo Hargeysa ka qaaday information badan buu isiiyay waxaan idiin ballan qaadayaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo maanta ay arkayo dhaqdhaqaaqeedu qofkii la socda ii soo sheegay meesha ay joogto video ka soo duuba bartiisa inaan ugu dirayo abaalmarin Cabdifataax ibn Faahi wuxuu yiri maxaa xalana loo dajiyaa xalane haddii lagu googooyo ilmo Soomaaliyeed maanta la yiraahdo beerkay kaliya laga baxo wax laga ogaan kara ma jirto dad aad u dayacmaynu nahay dad baaba'aynu nahay dad dhibaato dilootay ayaynu nahay dadka Soomaaliyeed waa dad aad u dhibaataysan dhibaatadii ayaa qof walba uu kaga faa'iideysanaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Soomaalida Kenya joogta iyo Soomaalida Soomaaliya joogtaba waxaan uga digayaa in ay gabadhaas il dheeraada ay ku fiiriyaan ka taxadaraan in abtiday baa soo gashay Naciima siidaa barnaamijka in abti message waa ku soo diray okay sidaa darteed barnaamijkan maanta waxa uu ku saabsanaa safarka gabadhaasi muxuu ku salaysan yahay safarka gabadhaasi laba shay ayuu ku salaysan yahay number 1 in la duubo videoyo ay ku hesho view hooyooyin Soomaaliyeed oo dhiban oo duruufayso iyo ilmo yar yar oo Soomaaliyeed oo dhiban oo duruufayso oo la yiraahdo aabaha u fiirsan Soomaaliyeed haddaan been idin sheegayna i qabto gala YouTube-keeda marka ay baxdo waxay soo gelin doontaa soo orday may qaraaba maanta masiiba dhacday okay isuga okay isuga hello وعليكم السلام okay waxaa soo gashay khadka Naciima Ducaale oo ah hooyo Soomaaliyeed ganacsato degan gobolka Minnesota aadna looga yaqaano Naciimo waxa ay doonaysaa inay la hadasho dadka Soomaaliyeed ee ku jira page-keega Naciimo ku soco أعوذ بالله codkaagana kor u qaad okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما لي مقلع ها si fiican الوعد السلامي إن عبد الحكيم وأبو سلامي اختفى كوكو حرارة دوا سلامي ولا له هرت أنا قبرتنا الأهان هنا أبو كر وحي يدا شخصي أهان أي سميسان يسو وحي يدا شخصي أهان تدكو سابسن هذي درك حراسو هذي درك إتكسارتو هذي دين لآن ساي هذي دين كجرتو هرت وحاني يقصي ما أهان تاس وبرسنال ما قرأتي لكن وحا أنا يقصي ومجتمع الصومالي يقصي ومركا أي ummadda jaafaynayso ay dadka dhibaataynayso taas waa waxa anaga dhan wada qusaysa hana abuukar oo muddo 2 bilood hadda dacwadeeda gabadhaas Jarmalka joogto siday uga soo hadashay arintaas taleefankaygu maba kala damaba wiilal walaa gabdho dumaro waaweyn waxa daba socdo waa yaabaysa xataa waxaan gaaray heer aan dhibaatadii hana abuukar aan dhageysan kari waayay tiraday ka bateen anigana waa daalay runtii laba wiil horta ugu dambeeyay maalintii dhaweed soo wacaayay wiil Ingiriiska joogo walaalay wuxuu yiri nin family man aan ahay qabeel ahaan waxaan ka soo jeedaa Puntland gabadha xaaskayga meesha deganay
muqdishaan keenuu yiri xanuun way xanuunsatay waxay tiri muqdishaan rabaa inaan aado muqdishay gabadhii timi waa lagu daweeyey meesha kadib waxay tiri waan joogayaa waxay tiri muqdishaan joogayaa oo way ka heshay meesha hadda waxay tiri gabdha walaaladay way iska qabsadeen adigu wuxuu yiri gabadhii waa is afdaafnay hanay soo wacday hana markay soo wacday buu yiri gabadhii dhibaato way meeshii soo gashatay laynka balaan bay u samaysay ciyaalkii bay soo kaxayso qolbay gabadhii ku xiratay anaa ku caawinaya Soomaali weynay ilmahan baabaahan ilmahana dhibaataysan wuxuu yiri wiilkii naxdin ilmaha wuxuu yiri nin anaa dhalay 20 jir oo u shaqaysanaya wiil Ingiriiska joogaan ahay ilmahayga weligood ma baahanin wuxuu yiri markaan wacay ku walaalay maxaa waxaan u samaynaysaa war ilmahaaga Soomaali weyn baa la dhex dhigaya iyaga biilaya marka intii oo lacag magac ilmaha ku urursatay oo ilmo masaak ilmada yani u baahnayn baayay gabadhii markii waxay tiri walaal ani odagayga waan heshiinay waa isku yara dhacnay alxamdulillah naga dhaxbax maya jiri lacagtii aan meeshaan ku keenay waxa meeshaan ku keenay iyo alla isiyo adigu wuxuu yiri dhibaato ay la gelisay ma laga sheekeyn karo yiri gabadhii anigu wuxuu dhahay dhibaato weyn ciyaalkayga sawiradood intay qaatay airport ka dhigtay tiri ilmaha airport ka ma bixi karaan waxaan ku leeyahay 7,500 lacagtan ay iga baxay yiri alxamdulillah wuxuu dhahay hadda waa ka soo kabanay familigeedii waxay isku dayeen inay kala burburiso guriyahay aad u burburisaa familiyaday kala burburisaa ciyaaladay ma aragtay iyo waalidka isku dirtaa waxaan ku leeyahay war Soomaaliya gabadha shaqo weyn hadda koorna waa idiga sheekeeyay gabaray tiri kaale kiliyahaaga gado kaalay iminkaaga gado dad waaweyn baa la shaqeeya marka sheekadaan Soomaaliya indhaha fura u fiirsada gabadhaan organizationkaas ee meesha ku soo qortay lacag bay dadka ka qaadataa dadkaan ay sawirada ka soo qaadayso organizationkaas lacag way ka qaadataa annaga Soomaali ahaan lacag way nooga qaadataa meel lacag tigeysa lama arko fidnay dadkaan ku dhex wadaa annagay rabtaa inay dhaqan ahaan dooriso la dudumiso ciyaalada Soomaaliya jooga ay ma aragtay organadooda iyo kaliyahooda iyo yaa og inay rabto inay gadato ciyaalkan nala iska marmaraayo marka hana abuukar il gaar ah loo yeesho haddana waxaan rabaa inay idin sheego inuu guilty tahay ee waxa ay ku jirto ay qalad tahay ay og tahay maxay uga gambanaysaa 2 bilood aan daba soconaa leenahay kaale noo soo jawaab oo kaale nala xisaabtan oo kaale maxay qofkii xataa su'aashaas weydiiyo balaaq bay ku fanaysaa marka ana saan waxay tiri sababta ka hore gabar waxay ku tiri Soomaalida lama bari ay wadwadayaan way loo shadaw yihiin way ilaawayaan meel wax ku caawinta lama arkin meel ay dad wax ku siiso lama arkin dadka exploitation ay ku sameynaysaa hadda gabadhii aad tusaysay Hargeysa aad tusaysay oo videoga gabadha Hargeysa joogto ee hadda ka soo duubtay yani waa ku jira steesaysaada gabadhii la kaalay marka baseexataan anagu tabaqiyaan taganaay hana xakada ku tagantahay homeless baa tahay you never worked a day in your life magaraad weliga ma taqaynin reeraad u saar ku tahay ma fahamtay ma inaad dadka aad markin u faahfaahantid oo aad bahdisid waa u jeeda videoga soo duubtay ciyaalkii meesha soo dhigtiga ee u bahdilayso dadka ilmaha ay rabtaa inay sawir ka qaadato videoyadaas markay ka qaadatana ay tiraado organizationka lacag igu siiya ciyaalkaas u shaqeeya aan wax siiyay marka gabadhaan waxay la shaqeysaa maafiya aad waaweyn wiil kalena way la soo xiriiray walaalay wuxuu yiri saad waxa laga sheegayo dhan waa run yiri si fiican aan u aqaana kamarada ii furi jirtay laakiin wuxuu yiri nin family man aan ahay oo ma aragta maanta hadda arrimeed soo bandhigo videoya iga haysaa waxay tahay oo dhan waa og uu yiri hadda wuxuu sheegay inay daraag isticmaasho marka iyada jirtaa personal waxay sameynayso laakiin marka anaga gabdhaheena dhalinyarada ay wadaanin kaliya maamooyinka masaakiinta aad sawirada ka qaadqaaday lacagtooda cunaysid markaas it becomes our problem markaas anaga waa waxa ku haysano laakiin hanay adiga personal waxa sameynaysid anaga tan kamalihin laakiinse adiga ilaahay idin dhaxaysaa waxa rabto samee maaragtay baalintii soo agoogaabeenkiina kalaabida ka niikanay ku jirtaa laakiinse annaga ha noo soo hagooganin annagana ummadeena ha baabi'inin exploitation ha nagu samayn annaga Soomaali community haddaan nahay war inta xoogaa damiirku ku jiro istaaga naagtaana meel kasta ku aragtaan walaalayaal she's very dangerous wallahi marka aan dhageysto qisadeeda one after another gabar kale ay soo wacday dhanbaa ka soo wacday waxay tiri Naxiimo gabadha yarta oo 20 jirka oo joogta jarmalka la yaabantiinay tiri anoo 50 jir ah ee upside down iga dhigtay oo intaas oo lacag iga qaadatay ee tiri
muxuu laptopyadaas ii dir toban address oo kala duwanay waxay jiraan laptopyo ku diray laptopyadaasna waa nimanka Afrika jooga waxay u dirto waa isaga dhisto naagtaanay shiili organized crime ayay ku jirtaa mafia weeye walaalayaalow annaga maarag kama xaganayno wax faafiyaan haynaa dadkii ay waxaan dhibaataysan oo la soo xiriira haynaa marka walaalayaalow iska ilaaliya Soomaaliya iska ilaaliya marada la idin soo xirtay annagii aan raba ilmaha iyo hooyooyinka isku dirtaa waalidiinta ilmaha isku dirtaa guryaha ka baxa ilmaha maarag ciyaalka yaryar ee gabadha israaciil cunugayga waan isbaxaaba social service ugu yeertaa guri nin joogana ma gasho guri nin hadduu joogo ma galayso dumarka ayay ka faa'iidaysataa marka walaalayaal wadiina furo anaga hana Abuukar personal uma xirsanayno laakiin waxay community waxay aniga ciidamada jeclaan waxay ugu sabaysan malaha laakiin community waxay ku hayso she must stop waa inay joojisaa haddii kale waxa anaga xaqa u leenahay inaan hadalno oo dadka ka qabano because voice aan ku hadalna haysanaa ma garan everybody gabadha hadda jirka waxaan ku dhahay abaayo qaali soo fariiso qisadaada sheeg waxay tiraa abaayo wiilalaan leeyahay ilmaan leeyahay dadkayga ma raba inay ogaadaan intahaan maxaa naagtaan ku baray camal marka wiilkana sidoo kale waxaan ku dhawlaalo ma ka hadashay gudayna walaal xaasaan leeyahay ilmaan leeyahay ma rabo in maaragtay faamiligayga iga burburo wiilka kale sidoo kale qof kasta waxa waaye sumcadiisa uu maaragtay la waxaysanay laakiin anaga cod anaga hadlayno hana you have to stop waxaad samaynaysaa ama indhaha iska qabo ama is-ilowsi laakiin cid ka haraysa ma laha we are after you waan ku daba soconnaa marka insha Allah ugu dambeyn waxaan rabaa Naciimo Ducaale safarkeeda Soomaaliya يعني محو ku salaysan yahay xaqiiqada dhabta adigoo og waxay ka ganacsato waxay samayso 6 bilood ay maqnaanayso Kenya iyo Soomaaliya maxaad uga digaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dadka Soomaaliyeed horta runtii waa dad aad maaragtay u diin jecel aad qalbi fiican markay arkaan qofkii inuu maarkin oo iska dhigaayo qof wanaagsan oo soo dhaweynayo oo dhahayo anigu waxaan rabaa inaan dadku qabto hadda true colorkeeda waa ogaatin hana qofna wax uma qabato dad maafiya ku xiran tahay walaalayaal oo meesha aragtaan ka carara ilmihiina kala hoos bixina ciyaalkeena kala hoos bixin ilmaanay organka markay tiri gabadha ku dir weyn ee Canada joogto organka ay gadi kartaa marka that makes me inay ma arkin xataa ciyaalada yaryarka la weynaayo badaha iyagoo lagu tuuraayo organada lagala baxay inay organ ku jirto community-gaas sababta waxay jirtadu waaweyn la shaqeeya dawladdu waaweyn la shaqeeya dad la shaqeeya marka waxayna Soomaali community la danka malaha adduunka Soomaalida ugu nacabtahay dadkaanay rabtaa inay baabi'iso marka waa inaad ka qabanaa gacan bira iskaga qabanaa gabadha okay aad baa mahadsantahay Naciimo Ducaale okay Rose Marcus abti isawa ama message isoo dir aan fiiri inaad message isoo dirtay in kale okay okay abti Rose numberka ku qoran meesha soo wac hadduu ilaahay yiraahdo ama Facebook ha iga soo dheh abti numberka meesha ku qoran soo wac ama Facebook ha iga soo dheh okay waxaan soo qabanayaa okay live ayaa hadda ku jirta sida la ii soo sheegay okay waxaan soo qabanayaa okay Samsam dayax baa soo wacwacsa okay Marcus so okay وعليكم السلام سمسم ضيح سوق ابتي الروز وسoo qabanaya Samsam ku soco aad baan salaamaya roos wax ku salaamay abriya horta waa wax aad iyo aad u fawaaxsan ma fahanti codkaaga kor u qaad waa wax aad u fawaaxsan ma fahanti gabar Soomaaliyeed in ay community-geeda ay bahdisho ay xasuuqdo oo qalkaniska ay tiraahdo hooyada iyo dhallaanka ay tiraahdo hal iska saaro ama hooyada iyo dhallaankii familkii ay kala fogayso horta aad iyo aad waa cambaaraynayna hadda la yiraahdo ha Abuukarna waxaas waxa ay ka dhigatay waxa weeyaan wax kala
fiirinayo hooyooyinkeenii iyo dhallaankeenii maanta kuwa aan waxba haysan ee afrika gaashada ku hayso ee sacadaanta ee cidna aanan ogeyn cilla aanan u qabnan ilaahay mooyaane in ay ka faa'iidaysato taas ogolaan mayno yurub gabdhaha jooga ay 4 kaa saacay dhahayso ay haraas garaynayso oy ilmahoodii ay cadaanka u dhiibaysana taa uma dulqaadanayno soomaaliya naagta dumarka ah waxa weeye qofkan dumarka ah gabadhan horta gabadh aniga waxay dhiibinta ma lahan waa waraas aanteen maaha aad iyo aad laakiin waxa aan ka diiday oon ka diday oo damiirkaygu isiin waayay waad arkaysaa gabdho badan oo ilmo ah oo arday ah oo teenager intay soo qabatay ayay tiri hooyo waxaad tidhaahdaa aabbahay baa iskuulay gabadh yar oo afkii soomaaligii aanan garanayn aabbahaas waxay ka dhigtay tigtok hooyadii dashay tigtok bay ka dhigtay gabadh yar tahay sida oo kaleto oo miidiyaha ay soo gelisay waxa weeye looma dulqaadan karo hana abuukar waana wax ay caadaysatay waana mid aanu iska qaban doono wuuna fiican yahay shacabku intuu isgangameeyo uu khaldaadkiisa iska soo dhex saaro qofka qaldanna la qabto aad iyo aad ayaan usoo dhawaanaya cabdixakiino midda kaleeto midda aan ku darsanaya ayaa waxay tahay waxaad tiri puntland inay u socotaa puntland ma ay jirto 2 xilliyood hadday tahay puntland sharci bay leedahay puntland camera ayaa kulligeed ku foortay mid dal jira iyo mid dalka jooga iyo mid dibadda joogaba waa dad iska warqaba lawaraas aanti maa haddii ay tagto maxaa waa laga soo dalayo galku bisada aniga oo suntan dayaca ayaa dhahay baasaboorka ay sheeganaysana wallahi soo sajaxaan kusoo kalaas garaynaya aad baa umahadsantahay aad baad umahadsantahay amni iyo wax walba iyo bilmurusi aad baan kuu salaamaya aad allah yسلمك okay Rose baan soo qabanayaa igu soo celcelisay السلام عليكم روس abti codkaaga kor u qaad waad ku jirtaa live-ka hadda ma lay maqlaatay si fiican kor u yara qaad xoogaa waa lagu maqlayaa abti programkan anigu waa raadinayay haye waana raday ina maanta kala hor abti codka iigu roono meel banaana fadhiya adoo raaliga abad xiiqdi hadda doontida okay haye hadda si fiican ma lay maqlaatay abti habarkaan inuu weyn waa go'ay codkaaga haddana waa go'ay haye haddana yes abti islaantan anaga wayna haligtay message-ka ugu muhiimsan oo meeshaan rabo inaan ka soo gudbiyo waxay tahay abti naagtan waxay raadsataa gabdhaha aan luuqadda aqoonin Sweden haye gabdhaha SV-ga aan dhamaynin bay raadsataa kadibna waxay ku torture garaysaa socializationista idinku diraya qolada ilmaha qaato haye abti problemka marka jira wuxuu yahay gabdhaha SV-ga dhiganaya ama gabdhaha aan luuqadda baranin ama gabdhaha waddanka aan dhex gelin ayadii caabudayaan waxaa la ii soo sheegay youtuberi tuulooyinka u dhadhow gabdha ay ayuutadoodii kala wareegtay haddaan lacagtii usoo wareejin weysada wacalada lagaa qaadanaya haye marka hal midaan rabaa hal pointiyaan rabaa horta socializationist mindigeed log uu leeyahay loggiisa wuxuu yahay marka wax loo soo sheegay in LVE log ay ugu qaadaan ma dhici kartaa in ilmahaga guriga inta lagu soo weerar lagaa qaata way dhici kartaa aniga igu dhacday laakiin waa lagu soo baaraa udreednina jiro marka lagu soo baaro oo wixii la sheegay inay been yihiin ay arkaan ilmahaagana adiga waa lagu soo celinaa ayagana waxay dabagelayaan ciddi beenta u soo sheegtay horta halkaas midaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan fahansiiyo LVE log waa acute waa wax degdeg waa u meedal baar laakiin ma aha wax cimrigiisa inta ka dhiman kugu soconayo been kastana waa la soo qabtaa awoodna uma ay laho been xooggaas la inay idinka sheegto okay Rose ma waxaad leedahay gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka ilmaha laga qaato Sweden hooyooyinka Soomaaliyeed ee ilmaha laga qaato waddanka Sweden oo dhan iyada ka dambaysa Rose badan hooyooyinka iyada waasho marka cunugii la qaatana waxay leedahay anaa ku caawinayo oo been haye socialkii ku sii diraysa hooyadii ay bahal ka sii dhigaysa maskaxiyan ay u qabsanaysaa haye la siiyaa la gaaraya hana abukar Soomaali waxay ku hayso idin haye ilmaha gabar baa tiraano yaraan i farxumay war that's easy wax ka
هاي 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 Soomaaliya haddaad taqaanin gabar ilmaheeda qatar ku jiraan ama ay hana abuukar soo dacweysay fadlan ani ila soo xiriirsiiya socialist mindigeedka anaa hor istaagayo hana abuukar anaa diyaar u inaan meel walba la istaago war isbaariya iyada ma lahan هاي isbaaniska loo gaday Michael Eldren hana ayada wuu ka sarreeyaa wuu ka da'wan yahay sharciga Sweden iyada manager komuun raba inuu ilmo ma aragtay aruursado ingingum komuun bilho egen bon ingingum komuun bilho bon från andra land från en annat hem till ett annat hem och sen så här och sen de uppfostrar barnen. Det finns ett behov och ett behov marka واحد muhiim oo in laga ilmo gurigooda laga qaada guriga la geeyaa fostrar valid bicke lacag badan ku baxdo marka Soomaalida shooka ka qaadana ilmaha la idinka qaadana war xataa hadii been intii loo sheego soo shooka LVU log iyo umadal bar ay ku dhacdo ha iswaalin adiga hana jaraynin hana abuukar been ay sheegtay ilmahaaga waan maalinkaaga ma maqnaanaya inta yaro dacwada ay socoto oo adiga lagu baarayo ilaa adkaysigeeda yaro kadibna cidii keentay waxaana rabaa hadleeda socialki adiga qorta u kaleeysa yaa way kamuunka rabo inuu ilmo korsado kamuunka hadduu eega boon rabo isagaa ka soo adobteeraysan lahay Afrika iyo Aasiya ilmo tirada ka batay kamuuna vilintoo eegna boon ilmo ma rabaan social namdiga ilmo ma rabaan taas horta aan fahanno waa marka khatar cunugu ku jiro in la badbaadiyo muhiimadda marka naagtan waa wasakh irkaasna looga soo tuuray waxayna rabtaa inay sharciga dadka ku abiyuusto iyadoo laba aflaynayso hooyooyinka Soomaalidana way ogtahay dhibaatada ay qabaan iswiirshka qaabkay wax u fahmaanna waa ay baratay dhexdii ay taagan tahay waxbay kala sarifaysaa horta anaga teenan ka hadla mogta aniga reer Sweden ka hadla هاي cudaaska anaga hada abuukar aan ku qabnaa ka hadla aniga taasaba ilaa igu daranayo marka waxaa jiro ciyaal ay tiraado waa la abiyusay rabitaanka anaga loo diiday dhaha waxaa jiro dhibaatooyin badan waxa soo dhanka daran ayuutadaada keen ka sheekay gabar ayuutay intaanu dhan aruursanaysa isleeysa guriga iskaga bedel ama gaari cusub ku gado diirinaaya wicilada laga qaada hatta socialka waxa dhigla keen lacagta markay gabadha tahay gabaraan wax baran afki aan aqoonin aan dadkii dhex galin midigeedka soo u fungeerayeen aan garanayn way qaadanaysaa marka baaski war anaga may noo timaad hana abuukar ani may bakaale baatiga qaado ma ka qaadi karto because waxay ogtaa qofka ku soo dhici karta ani ma bixiyo اوكي ابي هدا سويدن جوجتان هدا سويدن جوجتان maxaa community ahaan oo sharcigeedan Swedish yahay maxaa community ahaan u dacweyn weydeen abtiyo YouTuber dhaqdhaqaaqa sorta uu ka socdaa gabdho badan oo u hanjabtay oo hanjabaad u geysatay saa maqlay way is aruursadeen haye oo iyaga rabaan inay socialka iyadu ku dacweeyaan marka ma Sweden abtisaad moodama hatta Mareykanka anaga ka sharciya adag haye annaga waxa waay been loo lama tagi karo dawladda hada abuukarna way ogtahay laakiin qaabka ay hooyo marka hadda dhaqdhaqaaqa Sweden ka socda ee gabadha lagaga hortagay lagu dacweynaya intuu leeyahay wallahi dhaqdhaqaaqaas hooyooyina wado hooyo xanuun haayana waad ogtahay xooggeeda intuu leeyahay haye soo mar dhow guulee ka soo dhali doonaa laakiin dhibka koowaad oo la haystaa wuxuu yahay hana abuukar wax adrees abti lagama hayo adrees dhan gabadhu ma laha wax adareysa ma laha may hatta dawladda da ku dacweysay waxa laga yaabaa hal sano inay sii raadiso oo iyadu homeless ba Sweden kole guri kuma laha ma ogaan meesha kale degan tahay Sweden aniga sida hadda wararka intooda badan ku soo garay gabadhan address kuma lahan wadanka Sweden address-yadeedu way badbadishaa marba guriga martay ku tahay ma lahan meel regular qofka uu degan yahay oo hadda ani guriga deganahay hadda ii baahatid maanta يعني بوليس كمجالده إذا إسرق قبنا يعني أو ورئيسنا سمع. waayo gurigeyga 6 sano aan deganahay iyada meel ay degan tahay ma balahabo taasna culeys ay ku keeni doontaa dhalinyarada dhaqdhaqaaqa hooyooyinka wadaan laakiin dhaqdhaqaaqaas waa laga hortagaa waxay kale ay sameysay caruur ma aragtay loo geeyay tababar kultuur Soomaaliya oo ma aragtay fasaxoodi meeshaas joogay ee xatay dawladda tir ma aragtay ilmahaas xooga lagu wado saanway war ilmaha qaraabo salaan ay u socdeenay tageen may ilmaha xooga lagu wado kabdhiya niman lagu daraya wiilasha alqaacida la raacsiina waalidiinta intii la xiriiray dheer war anaga dhibaato ma qabnay semester kana meeshan ma ku qaadanaa semester aan u maanay taasina dhowr jeer ay dhacday marka hada abuukar abti ani hal mid aan bas hooyooyinka ay dhibaatada ku wado dhaqdhaqaaq baa jira
aniga ila soo xiriir hana abuukar social actiisa waxay ka tahay ma jirto beenaysan idiin sheegin hadda adiga SV dhigatid anaga Spanish kila optil tres soo dhameeno afka ku naqaana anaga ku hor boodayna ha qaadanin lacagtaada keena dikala ilma laga qaada war kamuun ilma inuu korsado diyaar way ma jiro oo rabo taasaan leeyahay maskaxdiyaan la idinka cunin anaga idin garab taagan magaalo walba daday ku leedahay waxay doontay kasta laakiin waxay ka qaraabataa SV-ga meelaha luuqada koo lagu barto gabdhaha joogay ka qaraabataa iskuma doonato naagaha xoogaa magaalada ku jiro ma fahmi yaya waayo way ogtahay inay maanta hadday aniga afaariga soo gashanaysa mindigheeda iga badanayna wayada way is ogtahay abti aad baad u mahadsan tahay ka qayb qaadashada aad igala qayb qaadatay dad badan ayaa i soo wacwacaya oo xoogahaya marka insha allah gooni baan kula soo hadlayaa facebookayga halkaasuu saaran yahay gabar alla gabadha reer Sweden ay huutaysay ay maaragtay lacag baad ka qaaday ama dhibaato ay u geysatay fadlan aniga ila soo xiriir waa ballan kaliga ma aha dhibka waxay u geysatay hana abuukar waa ballan abti aad baad u mahadsan tahay hay abti okay isuga Hello? 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 السلام عليكم لايف بان كجري اوكي waa kugu sii deynaya xaga magacaaga saddexani meesha ka soo hadlas قبل عندنا البحر وحكي مقالة مانشستر codkaa kor u qaad قبل البحر قبل علمي ناك تمني كفو تام ساكت على يوتيوب أيضا كان ناك بعد جوات نبى محلها أبي بعد جوات يسووني يوحى سكوا هالشيء ما ترى شقة جانبه سو عن مقالة كل شفتي هذا أنا حسينا برايك يسوي أبوت maxaad faraysaa dadka Soomaaliyeed meel walba jooga ee hadda ay safarka ku aadsan wadanka Kenya iyo Soomaaliya عرفت على جيلان لا أيضا وثقت لي برايك هذا عرفت على جيلان aad baad u mahadsantahay walaalka cali okay Soomaaliya qoraxduna aad bay u kulushahay aniguna meel baan u socdaan rabay inaan aado barnaamij dambe ayaan iskugu soo noqon doonaa oo aad u weyn oo dad badan soo qaban doono hadda dad badan baa WhatsApp-kan ku celinaya dad badan baa aad ii soo wacwacayay ha iga xumaanina intii aan helo waan helay intaan helinna gadaal ayaan idinkala soo hadli doonaa okay let me woman come Kenya oh Kenya ay soo gashay okay اوكي qofkii soo wacayo markaan kugu soo celiyo ma qabanaysid okay waxaan jaanis siinayaa okay hooyo Soomaaliyeed Kenya joogta Hello assalamu alaykum wa alaykum assalam magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogtid aan Cabdixakiin Xamdi Maxamed Cali alidaa Kenya kunolahay agtaas wax ay saacideyso malahan Soomaalida way qiyaamaysaa qofkii run uu oo saacideys weydiistane
way ku jeesjeestaa laakiin dad oo ayada ay kontaraad la soo gashay ee codadka ka duubtaa waxay rabtaan ay ka qaadataa ma fahanta okay xamdi waxaad joogtaa waddanka Kenya waxaad tahay hooyo Soomaaliyeed sax hooyo Soomaaliyeed ahay Soomaaliya waa u jeedaan xamdi waxaad joogtaa waddanka Kenya waana hooyo Soomaaliyeed haye maxaad leedahay qoftan aan ka hadlayno arrinteeda Hello sug wala xamdi sug raaliga ahow waxa iga soo galalayn maxaad leedahay ku soo hadda soo bilaabay barnaamijkaaga waan salaam ummadda Soomaaliyeed dhamaanteeda waxaan hooyo Soomaaliyeed dalka Kenya degan ma fahantay islaantan dadka oo ay maxaa la dhahay fiidiyoyaasha ka soo tuubanaysa ee dheer hal saaciday waa dad ayada kontaraadka la soo gashay ma fahantay dadka caawinada u baahan oo ilaahayna ku og yahay way ku jeesjeestaa xaqiiqooyin badan aan kaaga haaya anigaan kula hadlaay aan la xiriiray marka si gooni inaan kula hadlaan rabaa ma fahantay okay si gooniya waad ii waraysan doontaa lambarkayga aan kuu soo dirayaa kayga kale kan markaan ka baxo live-ka ma qabanayo marka wax ay khaas ay ku geysatay miyaa jirta adiga wax qaas ay geysatay jirta laakiin waxaan rabaa in aad si gaar kula hadlo walaalkay macaan okay aad iyo aad waan ka aqbalay laakiin maxaad ummadda Soomaaliyeed ku boorinaysaa khaasatan adigoo ah hooyo Soomaaliyeed sida aan ka dareemayo ay dhib kugu samaysay waddanka Kenya hadda u soo socota aad joogtid maxaad uga digaysaa dadka Soomaaliyeed horta ummadda Soomaaliyeed waxa la ilaahay ka cabsadaan adduunkan qabri loo mitraa looga dhaadhacaaya qof walba inuu ilaahay ka cabsado oo dadka masaakiinta lagu qaraabanayo laga xishoodo oo ilaahay laga xishoodo alla cabsidooda way dhamaatay dadkii waa dumarka waa soo dhar dhigteen ragii oo iska ceetamaan qabiil iyo wax daranay ka sheekeynaan marka ilaahay ha laga cabsado adduunkan waa laga faaruqaayaa dadoo xoogin iyo naftaan yartaa inta sanka leerta idinkaga baxayso ha ku xisaabtanina ilaahay awoodda idin siiyay oo gacmo iyo lugo iyo dhagaa wax ku maqashin iyo afa wax ku cunteen idin siiyay dadaa maxaa la dhahay rafaadsan ilaahay ka xishooda dharagtii idinkaga darin iswaalinina ilaahay ka xishooda ilaahay soo hanuuniyo asaa hanuunka baxsho aamin maxaad ummadda Soomaaliyeed uga digaysaa naagtan dhibaatada ahaana Abuukar ay dadka Soomaaliyeed ku sameysay khaasatan hooyooyinka duruufta ay sida adiga oo kale Afrika jooga maxaad uga digaysaa waxaan leeyahay iska ilaaliya ilaah baa baryaha iska leh ilaahay barya qof bil aadan ha baryinina ayadan ilaahay muslimka ka qabto aad iyo aad baad u mahadsantahay nambarkayga waan kuu soo qorayaa kayga caadiga waad soo wacasaa wixii dhibaatad sheeganaysid waad sheegaysaa insha Allah haddaan kuu soo qorayaa insha Allah okay intaanan ilaawin aan nambarkayga u diro 9870004 okay Soomaaliya hello salaamu calaykum السلام عليكم هلو 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 خدك يا كو سامح واي اصحابي وقتو اد بيغو يرياهي اوكي قف هالكناس الو السلام عليكم السلام عليكم هواكم مقليا حقاك سو هذا مغعاده صدحان مغعاده صدحان iyo meesha aad ka soo hadlaysid مغعاده صدحان iyo meesha ka soo hadlaysid aniga waxa ya aniga waxa from USA waxaan joogaa Muqdisho maanta waxaan joogaa Muqdisho waxaan deganahay Mareykanka ma fahamtay haye hello waa lagu maqlayaa marka naagtaas laga hadlayo hadda xakiin horta anoo ma daawan jirin horta horena uma jecleen oo sanadkii marka Muqdisho qoytiina wax siina dheeysay mar baa lacag ku soo daray oo maxaa la dhahaa dadka masaakiinta si u caawiso marka haddii qofka qof noocaas tahay community-yaashii caruurta dhex galayso meel walba Soomaalida joogta anigu waana Mareykanka degan last 28 years hadda waxaa jooga Muqdisho waxaan ku dhahaa gobolka Banaadir dad badan baa ka shaqeeya waa la dacweyn karaa inay ummadda ay naagtan kitana ma aha meel walba
soomaaliyeed baa jooga waa laga dacwoon karaa gabadhii hore se u sheegaysay sweden joogtay ha laiska celiyo gacan ha laiskaga qabto meel lagu soo dhaweynayo ma jirto qof baa arkaya soo qoraayo xamar waxaa u jooga staafka xamar u joogana staafyada kama xoog badna sharciga wadanka ka jira intaa muqdisho jooga hadday imaatana anigaa ku mintidaayo faadimaday dhahaayo mii maqasha cabdi xakiim walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaynu isku wadan nahay maraykanka aynu wada joognay laakiin maanta aad caasimadii soomaaliya joogtid waxaan kaa codsanayaa si shakhsi ahaana okay inaadan aad iyo aad baan kuu salaamaya waxaan kaa codsanayaa shakhsi ahaan adiga waxaan kaa codsanayaa haddii ay timaado muqdisho in aad dhammaan ku faylisid wixii aad garanaysid oo dhan gabadhaas laga celiyo bulshada magaalada meelo waaweyn baan ka tagaa magaalada waan joogaa dadkii baa wada jooga dalkii baa wada jooga dowladii baa joogta hadday meel alle meeshay ka soo degto waa anigaa ku mintidaaya oo dhahaayo ummadday hogtaa waxay qabatana ma jirto haddana macal waxaa u tagayaa meesha la dhahaya sheegay sidoo xalane anigaa baasabor maraykan iskale anigaa galaya oo dhahaya dad badan oo soomaaliya oo wadamadaas qurbaha dhibku ahaaya ayaa haddana soomaaliya soo dhex galay waxay qofka qaadi kartana ma jirto qorshigan dambe waa ruganaya ma jirto sanadkii hore markay biyaha iyo wax daadanaya qaxootiyaasha banaanka wax ugu qaybinaysay gabdhihii sadaqa wax ka soo aruriyey baana marka cabdixakiino maadaama aa hadaladaas ka dhawaajisay aniga uma adkaysanayo maniliba naag soomaali ilmaheeda balaayo ka sheegaysa okay bacdamaa aad joogtid muqdisho waxaa jira carruuro yaryar oo badan oo soomaaliyeed oo baahan oo aad ku aragtay dariiqyada magaalada muqdisho waa kuwa ay ka faa'iidaysatay Hana Abukar oo ay ka duubta fiidiyowyada maxaad uga digaysaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muqdisho ku nool qofkii arka iyadoo fiidiyo ka duubsa ilmo yar oo dhibaataysan horta rasiiranta muqdisho wax fiidiyo tuubo oo yani xagga dawladda ama meelaha dawladda la iska duubo ama sawirro la iska qaado ma jirto laakiin masaakiinta iyo carruurta iyo kuwa koolada caddaaya iyo MCH-yaasha meelaha MCH-da tagtaa baan u malaynaya because MCH-ka oo carruurta naagaha lagu quudiyo uurka leh iyo kuwa carruurta dhalaaya meelaha lagu quudiyo oo dadka miisaanada ka dhacay meelahaas midaa tagtaa aniga hadda waxaan joogaa degmada cabdicasiis ood garanayso cabdicasiis dadka u badan oo ninkii minneapolis ka imaaday uu ka yahay maxaan ku dhahay gudoomiyaha MCH waa inaa waraaka ka dhignaa waxa soo gasho xamar maalintii soo gasho adiga taleefonkeedii hore waa laga xaday six month fourka taqaani kan xareyso ila soo xiriir awalbi step inaa raadiyo okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaadeer okay iska jiraan oo xamar dhahaayo odageedii hore sheekh buucaala u malaynayaa ka tagtay marka halis ilaaliyo caruuraha Soomaaliya joogana walaala ilmo qaar waxaa jira waali haysanin qaar waxaa jira community-yaal badan u baahan yihiin waa sida runta ah annaga markaan dibadaha joogno waa calool jilacsanahay waxaa dhahnaa carruurtan ha la caawiyo laakiin waa inaa u fiirsataa waxaad caawinaysid waa inaa u fiirsataa waxaad wax siinaysid waa inaa u fiirsataa community-baa jira waxaa jira cabdixakiin oo kula soo xiriirsiin doonaa ninka disability-ga caawiya ee gobolka banaadir ee disability-ga community-ga dhan caawiya waa nin indhala marka kaasoo kale disability-ga dadka masaakiinta kale hadday wax dirayaan waxaa rabaa ninkaas inaan kula soo xiriirsiiyo gobolka banaadir ka shaqeeyaa wuxuu xukumaa all the disability iyo masaakiinta qofkii wax raba inuu diro waa inuu u diro meel uu garanayo oo keli meel wax u raadsan karo laakiin qof blackmail garaynayo ilaa ahayd iyo ilmaa lagaa qaadanayaa insaana ahayd wax loo dhiibin karo male irsaaqadana ayaa ku guubo nagtaas aad iyo aad baad u mahadsantaha okay hadda waxa ay soo gaaray inay u socoto Cadaado iyo Dhuusamareeb dadka reer Galmudug waa dad dhaqan leh waana dad aanu aad iskugu xirannahay haddaanu xerta sheekanahay ixtiraam badanna aanu hayo aadna aan u jeclahay dadka deegaamadaas degano waxaan idiin soo geli doonaa barnaamij gaara oo live ah oo ku saabsan Cadaado iyo Dhuusamareeb il gaara waxaan isku dayi doonaa inaan la xidhiiro dadka ammaanka iyo isimada deegaamadaasi anigoo Cabdixakiin Cismaan Nuura inaan la xidhiiro ayaan isku dayayaa laga bilaabo caawa waxaan doonayaa inaan raadiyo Dhuusamareeb iyo Cadaado dadka degan ama isimada ha noqoto ama waxgaradka ha noqoto ama laamaha amniga ha noqoto ama madaxda ha noqoto
بليز ننحل هيو oo ummadda islaamka ee bacadkaas iyo dhibaatadaas ku dhacday dul taagan oo mas'uuliyadooda qaadayo ilaahay baan idinku dhaashay habartaas shaydaamadda ah munaafaqada ah ilaahay ka gooday 200 oo ay ku siisay ama 300 oo ay ku siisay ama computer ay kaaga soo qaaday Yurub ha ku bahdelin hooyo Soomaaliyeed cadaada ama dhuusa mareeb joogta ha ku bahdelin ilma Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo dhuusa mareeb ama cadaada jooga hana jaarisan ha ku siin ay video kaga duubto billaah alaykum ilaahay baan idinku dhaashay madaxda deegaamadaas la ii sheegay hadda message ugu soo dhacay inay u socoto ha sameynina dadka reer dhuusa mareeb iyo dadka reer cadaado labadaba xiriir badan baan la soo sameeynaya ilaahay baan idinku dhaashay mas'uuliyad baa idin saaran laptop HP oo ay ka soo bixisay $200 oo waliba gabadh miskiin oo cayr qaato ciyaar qaata ay tir soo gab nin madaxan siinaya ay ku keentay yaani kugu bahdelin ilmahaaga oo kala ha ka yeelin in intay qol u xidhatay video ka duubto Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa meel kasta joogtaan any video ay hana soo gelisay YouTube-keeda marka ay tagto Soomaaliya ay tiraahdo ilma yar baa aabihii kufsada ama adeerkii kufsada ama walaalkii kufsada reportka lagu boobo YouTube-keeda waa in channel-keeda waa in aan video la report garan laakiin waa in personal loo report garaya waa in tallaabo sharciya laga qaado waa in laga hortago xumaanta waa inaynu ka hortagno aynu u gargaarno dadkeena dhiban ee Soomaaliya jooga dadka masaakiinta ah dadka aan waxba haysan ay ka faa'iideysanayso habarta nijaasada ah ee masaakiinta ah waxaan rabaa inaan fariin u diro haano 6 jeer ayay sawirkayga soo saartay markii aan moodayay gabar wanaagsan iyadoo dhahaas walaalkay Cabdixakiin xirta sheekh waa ku faana marka dad walaalaanu waxba isku gumaanaa dhimaanin laakiin markii aan ogaaday inside oo aan baaray damiirkayga wuxuu siin waay in aan ku qanco sawir aan leeyahay ay soo saartay damiirkayga ay siin waay waxaan arkay dad daafacaya waliba hooyooyin daafacaya oo dhahay intay sawirkeeda soo saartay haan waa gabar fiican waa kan ilaahay baan kugu dhaarshay qof fahaana difaaco YouTube-keeda gal haddaad ii keentid baan ku dhahay waynu isgarananaa dadkii difaacaya ka hadlaya haddaad ii keentid baan ku dhahay hal video oo run ah wallaahi oo billaahi 99 magaca Allah ku dhaartay $10,000 xaala bixinaya bartayda Facebook-na waa bixinaya waa ka baxaya qofkii difaacayo ii keen 10,000 adaan kugu soo qoraya halo waalaikum salaam خير ولا لا وما قاعد صدحني ما ايش جوجت waxaan joogaa siyaara Washington اوكي ما قاعد صدحان xaliima geelle isma اوكي barnaamijka waad ku jirtaa live kaada la socda ku soco Cabdixakiin horta hana abuukar waan arkay iyadoo oo maaragtay wax badan ummadda Soomaaliyeed inta meesha soo fariiso ka hadlayso dhar mara xitaa isku day inaan la xiriiro lacag aan u diro laakiin Cabdixakiin oo sidoo waan aragnay video ay duubaysay leedo waxba dhibaataysan waana aragnay video ay leedo waxa la soo sadaqaysto laakiin ma arag dadkii sadaqada siinaysa iyo wixii guddoonsiinaysa anaga ma arag haye wiil hadda Muqdisho joogo oo leh kanaalka maanta la dhaho saafay sadaqad u aruuriyaan markay geeyaan iyo qofka soo diray inta loo soo diray wax walba hadana way soo duubaan haye hase yeeshee walaalkay inta adiga hadda live-ka hana abuukar aad ka soo galaystay waa idin la socday adiga xamdi kala gacal walaalkay horta qatarta kale wadaaba ka badan to hadii horta lacag inta la aruuriyay la cunay wax dhibaato ma laha laakiin qatarta kale ilmaha Soomaalida ee ku wadaaba ka daran waa mahadsan tahay naagtaas waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed ha laga qabto maxaad ku guubaabinaysaa dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga ee u socota adigoo og walaale xaaladda dhabta iyo duruufta taalo wadankii wallahi Cabdixakiin wadanka duruuf badan taalo qofka xitaa ilma yar $20 ku siinaa kaale hadal uu hadlaaya waa ayo qofaan qadahaysan soo quraac $20 aasiisa wuxuu rabo sheegaya baahida meel walba ku gelisaa marka hana abuukar markii ay ka soo duubtay gabadhii yareeday tir aabahay ay kufsaday bal adiga damiir xumadeeda gabar yar ee aabaheed kufsaday ay leedahay hooyaday way u jeeday inuu xabadka igu haystay
hooyo Soomaaliyeed oo yeelaysa in gabadheeda la qufsado oo aabaheed qufsado xaggay joogta walaalkay macaan That's question dadka Soomaaliyeed oo ka jawaaba marka hooyo Soomaaliyeed damiir xumo intaas leeg hooyo Soomaaliyeed ma laha hooyo Soomaaliyeed Cabdi Casiis oo xirta sheekha hooyo Soomaaliyeed xakiin magacaada la dhaho waan ogahay ani awow waa ii tahay hooyo Soomaaliyeed ee waxa waa uu macaan yaanyada gabdha ee barandada gabdha ilmaheeda si u korin lahayd dab walba ugu dhacdo oo hooyo Soomaaliyeed damiirka siinaya ayadoo u jeeda ilmaheeda in lagu horkufsado xaguu jooga hooyo Soomaaliyeed garan weyta ilmaheedu ilma ka soo dhacayaan garan weyta oo dhayta dhiigii baa kugu dhacay waxaan ku soo galaa always xagee joogta walaal macaan adaa ku weydiiyay That's su'aal isweydiin mudan marka walaal waxa waaye gabadhaan umada Ilaahay laga qabto dad sadaqa aruurina waa aragnaa maalin musocod qeyr Allah siiyo waad aragtay dadka teleefanadooda meesha ku soo qoraa lacagta loo diro dadka siyaa wiilasha maanta la leeyahay waad aragtay qof walba oo maaragtay adiga naftirkaaga dhowr mar ayaad lacag aruurinayso oo dadku aruurinayso teleefanadooda ku soo qorta oo waxaad tiraahdaa teleefanka qofka waa ka kala xiriir gabadha hadda joogto kale ii sheeg gabadha magaceeda iga maqanay gabadhaas waan wacayani teleefankeeda meesha ku soo qortay marka qofka markuu sadaqa aruurinayo waa inuu qofka lambarkiisa meesha ku soo qoraa hadduu lambarkiisa haynin qof wakiilka uu meesha ku soo qoraa hadhowna wixii uu guddoonsiyo uu soo duuba marka walaal macaan anaga dee Soomaali haddaan seeflaboodaan nahay seeflaboodnimada un baan naqaanaa mar gabadhan qatarta ee wadaaba ka daranba lacagaan ee cunayso haye marka xirta sheekha qaar Allah ku siiyo horta shaqada aad qabatay ilaahayna ajir ka siiyo oo ummadda Soomaaliyeed u hoysid walaalkay macaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo joogno ama Afrika ha joogaana ama Aasiya ha joogaana ama wadamada reer galbeedka meesha rabaan ka joogana waxaan ugu baaqayaa naagtaas in faraha gool la iskaga qabto ee ummadda laga qabtaan ugu baaqaya kuwa wadanka Ingiriiska oo kale Soomaalida way ku badan yihiin hadda weeyna dacwaha ka geeyeen Jarmalka sidoo kale Sweden sidoo kale hal dacweeyo qofkan qatarta ummadda Ilaahay ku hayso waa loo jeedaa inta qof ay lacag ka cunto way wada taagan yihiin marqaatiyaal ay haystaan ayagiya wada taagan afkooda ay ka sheegayaan marka walaal macaan hal iska qabtay gabadhan Cabdi Xakiin oo waxaan ku bogaadin lahaa meel kasta ay joogaan ummadda Soomaalida inay iska qabtaan waa shakhsi qortay ka goon karaa wax kale iska daay aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol inaad gala qayb qaadatay barnaamijka dad badan baa leenka soo galay waa kaaga mahadnaqaya okay Soomaaliyeed gabadhan Seattle Washington ka soo hadlaysay su'aal waxyaalo waxay soo dhigtay dadka Soomaaliyeed u soo dhigtay macquula dadka hana Abuukar intay live soo galaan daafaco waxay tiri hooyada Soomaaliyeed ogaan weyday gabadheedii ilma ka soo dhaceen oo uur loo guriga joogtay gabadheedii aabaheed ninkeedii ku kursanay waa aabihii dhalay hadda ma ninkii hooyada qabay waa aabihii dhalay hooyada Soomaaliyeed ogaan weyday waa tee suuga alo وعليكم السلام magacaaga saddexan meesha ka soo hadlaysay والله waxaan ka soo hadlayaa California ka soo hadlayaa magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Cali okay Cabdiraxmaan ku soo barnaamijka walaalow aad baan ku maamulaya iyo xirta shiiqa iyo dadkiina dadaalay gabadha ahaana xakiimow anigu waxaan ka mid ahaa dadkii bilowgii markay Soomaaliya tagtay dareensanaa inay gabadha qorshe wadato waxaan xasuustaa abaartii xumeyd oo u adka Soomaaliya ka dhacaysay lacag bay xamar ku aruursatay tiro badan ma garata haye layskay soo geli jirtaa iyadoo ku la qaraaba ku haysta ma garata haye teleefonna ma soo dhigi jirin dadkay wax siinaysa lama dhigi markay lacag tiro badan aruursay waxay tegi jirtaa barakacayaasha xamar ma aragtaa ayay aadi jirtay hadday laaluushi jirtay xoogaa yar baysaa waxaasa wixii dhaqaalaha raashin xataa ma bixin jira ma garata haye dawladdaas xataa ma arkaysa wax ma bixinaysa markay wax aruursa ma garata haye arrinta Cabdixakiin waxa weeye mar hadda ka hor Yurub ma meel baad maraysaa wuu kaa googo'ayaa walaal meel baan maraya okay ku soco Cabdixakiin anigu waxaan oran lahaa gabadhaasi barnaamijyo badan ayay soo diyaarisay gabadhaani ummadana lacag bay ka qaadaa dad kalena way la shaqaysaa aan Soomaali ahayn saa u maleeya ma garata aniga haye gabadhaani inay Soomaaliya ku laabato
qorshooyin bay ka wadataa dadka ay ka faa'iidaysanaysana waxa weeye waa dadka masaakiinta ee saboolka ee barakacayaasha ee dayacan bay ka faa'iidaysanaysaa ma garan haye anu tale waxaan soo jeedin lahaa markay maanta soomaaliya ka degto gabadhaan in kaamirada iyo waxa la wixii digital ay haysato in laga qaado shaqadeedana la weydiiyo meesha u socotana ay noqoto meel qaraabadeeda keliya ay la joogaysa laakiin aan lagu sidexsideen bulshada si aysan u faafin dhaqamadeedan iyo anshaxumada ay waalidkeed dhalay iyo ubadka ay ku faafinayso oo markii la yidhaahdo aabbaa gabadhiisa kufsaday waxay ka dhigan tahay dadkii muslimka ahaa baa la sumcadilaya ma garta waa sumcadilid ma garata haye ma kula tahay haana inay la shaqayso hay'ada diinta faafiya oo waddanka Soomaaliya caruuraha haligaya walaalo ani shakigaas waa qaba wallahi been kuma sheegay waan daartay ayada kaliya ma aha dad badan baa ruuxa wax xigtana maxaa yeelay gabadha markay Soomaaliya tagtay maryo xirasho bilaabatay aana 2014 Cabdixakiim haddaad daawatid iyo taatiinki iyo tualifki haana gabar waxay iska qarroon bay ahayd oo ayadoo iyo nasar meelaha wareegta Yurub joogtay haana hal mar waxaan aragnay dad qabto xamar ka soo dhaxlayso haana waxa dalka u xiray dhaqanxumadina afka ka wada oo dad muslimka ahaa bay isku diraysaa oo waxay leedahay diin Cabdixakiim oo maanta markaad gargalaysid haddaan kuu soo cawdo waa in dadka kala baartaayo ma garan haana intii laska sargalinaysaa kiis bay ka diyaarinaysaa waxay leedahay dowladda la aadaya waan dacweynayaa hooya baayey war u soo baxooy ma dhahayso dhankii kale ee la xiriirina yaa garanaya yaa ehel u ah adiga Cabdixakiim haddaan taa soo wacdaasan waalay wiilkaasi qaraabaan la ahay wax ka sheegtaye dalkatiisaan gelayaa ka waraataan jaabe haana waxay ku leedahay maya dowladdan ku xalina waxay dowlad ku xalisana ma jirto gabadhan Cabdixakiimow qolooyin bay la shaqaysataa midda kale dadka Soomaalida dad iska emotional iska masaakiina weeye lacagtaasi layska uga cuntaa love qabalaabay taada islaamaha xoogaa u diro lacagtoodu bay ku soo baashaashaa anu waxaan qabaa gabadhaan laba qolo u shaqaysaa ilka lacagta gurashadaana way heshay qolo kale oo dhaqamada iyo ashax iyo islaamiyadda ka la dirayana way la shaqaysaa saasaanu isin walaalo okay aad iyo aad baad umahadsantahay boqolkiiba boqol okay Soomaaliya culimaa diinka Soomaaliya jooga ayaan iyagana fariin u dirayaa fariintaas oo ah gabadhan waxa laga yaabaa inay la shaqayso xidaa hay'ado faafinaya diinta Kiristaanka okay aqabanana halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaaga saddexan meesha ka soo hadlaysa Cabdixakiim Canadian baan ahay aniga hadda xamaran jooga xamaran ka soo wacaya haye waxaan kaaga mahadnaqayaa shaqada aad u qabanaysid ummadaada Soomaaliyeed Allah ya cizak ku soo barnaamijka waa u baahanahay adigoo saan u badan oo arrimahan wax allaale wixii mashruuciyo tiro badan oo ummadan ku socdo wixii ka hor imaanaya ka hortagaa ka hadlaya inaad u soo istaagto oo u bareertay ilaahay ajr Allah kaasi annagana gadaashaadana aamiin hana day xamar ibaata waa la xiraaya haye warkeeda meel kasta gaarsiinayna ilaahay idinkiisa muqdisho aad hadda ku sugan tahay Canada waad ka tagtay ha okay ku soo barnaamijkaaga marka waa ka intaasan ku leeyahay waxaan kaaga mahadnaqayaa ummad Soomaaliyeed oo iska wada jiifta aad baan kaaga mahad celinayaa halo wuu ka go'ay okay okay اوكي هلو السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga saddexan meesha ka soo hadlaysi
magacaygu waa Sundus Cabdiraxmaan waxaan ka soo hadlayaa waa Canada. Okay, ku soco. horta xerta sheekh walaalkay aadan ku salaamaya Cabdixakiin horta waxaa jiro barnaamijyo badan oo jiro waxyaalo badan oo hadda gabdhihii walaalay iga sii horeeyeen ay ka hadleena way jirtaa. Hani horta hani markaa arko oo sadaqa aruurinayso oo dadka ka hadlaysa markaa arka laba maskaxiin matiba u laabtay hani taariikhdeedii hore markaan dib u raacdo waa qoslaa laakiin mar waxa jiro ilaahay qofka hadiyo siiyo oo ilaahay soo hanuuniyo laakiin hani dhaqanka nooca ay ku socoto ma aha nooc wanaagsan hani aan waxaan isleeyahay dadka ay gabdhaha ay video intay ka soo duubtay leedahay hal aabe ay qofsado anigu ma aaminsani hadaan aan dad islaam oo dad muslim ahna waxa soo dhaqankaas ma lihin ilaahay nooma ka si aabaha haduu xataa cabtay walba uu yahay xataa cunugtiis kuma saqajaamo marka runta laga hadlo haduu aabaha cabtay walba yahay xataa cunugtiis ka waran hooyadii oo guriga joogta ayay leedahay wuxuu kufsaday gabadhiina uur bay yeelatay cad baa ka soo dhacay yani waxaas macquul ma noqon kartaa wararta cad xakii walaalkay waa mid la yaabana habeen waxa horta aniga gabadha beeskeed kuma xirni laakiin badanaa xaafad wax degan waa ka arkay hani dadka aamin waxaan hani waa leedna aamitay Allah ii caafiina ka darnaa baa ka tagaani marka waana arkay fiidowgaas ay ka hadlayso dhiig maalina dib u galay waan arkay wallahi qof islaam ah qof muslima waxay ku hadlayso qof muslim kuma hadli karo halina haday cuntay sadaqadii dadka walaalaha loogu talagalay dhibaateysnaay haday cuntana horta sadaqa waa mid dadkii aakhira kaaga horeyso anigu ma qabo sadaqooyinka horta la baxsadana anigu ma qabo horta dad waxa jiro cadeeman u baahan laakiin sadaqada sideeda bana waxa la hadaad midib ku bixiso bidka qare haday sadaqada oo meesha shaki imaado oo dadka qofka muslimka oo wax baxsaday shaki imaado cadeen sida walaalena cordoon oo kale wiilasha Soomaali joogan oo kale cadeeman sida aad sadaqa qabato kale lambaradooda ku soo qorayso kale waa taas cadeeman in qanaysaqa laakiin hani haday dhaqankan ay tahay anigu waxaan qabi lahay Soomaali maxamedna isku midowdo isku tagto YouTube kan hunguri ka raadinaysa iyo masaakiintan dadkan walaalena dhibaataysan lacagaha ay ku qaadanaysan hani sharciga jiro sharciga la tigsado reeraysuuna way iska saayaan Soomaali haday maatan dadka dhaayeen hani waa Kenya wax la yiraahdo ma jirto hani waa Soomaali kama weyno yes warunta marka ani waxaan qabi lahay kulay inta baxsatana sadaqada ajri xasanaad Allah ka siiyo hadii wixii ka dambeeyana dib loo aaminahay hani finikeeda waa qarxaybo walaalay maxaa ku gubaabinaysaa hooyooyinka Soomaaliyeed waad ogtahay qurbaha yani gabdhihii yaryaraa inta ilma laga dhalay baa laga wada cararay yani depression baa iska jira xanuuno badan baa jira meelaha ay eegato waa guryaha aan rag joogin marka dadkan gabdhahaas maxaa ku gubaabinaysaa والله walaalkay aad weyn horta ilaaha wax baxsho waxaan dhii lahay walaaleyga Soomaaliyeed dadka dhibaataysan dad waxa jiro walaalo sadaqada diyaar la ah anigu horta mar walba hadii aan qurba joog dadka walaaleen dhibaataysan inaan garab siino waan jecelnahay mar walba waa mid u taaganahay hadii anaga aan qurba joog aan qurbii aan jirno aan waxaan soo dhiibno dadka masaakiinta aan ugu talagalno laga cunaayana anigu qaadan mayno dadka la yaqaano dadka magacyada social media magacyada kula ha u tagaano meelahaas oo kale waxa ugu diri karnaa laakiin haday tay tuugo isbahaysato qolo isbahaysato oo aan tan iimaan aan lahayna Allah ka qabtaan dila aad baad ma santaa walaal boqolkiiba boqol ayo walaal ma santaa salaam okay ummadda Soomaaliyeed anigu waxbaan idin ballan qaaday oo idin sheegay qofka bil aadanka ahi marka uu guro macaawino waxa uu keenaa xaqiiqo qofku uu ka soo qaaday haana dad badan oo u dhiibay lacag ayay balo garaysay oon hayaa oo meel ay ku bixisa haba yaraatay aan jirin wixii ay guraso war waxaan adduunkan waa la helaa waana la waaya lacagtu isnati laakiin waxaan ka gubanayaa in ay dhibaatayso oo dhibaato ay u geysato ilmo yar oo baahan Soomaaliyeed inta ay siisa shilimaad ay tilaado kaalay saas iyo saas di ay view ugu hesho Hello Alexa Hello 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 Ha
codkaaga wuu googo'ayaa walaalow ha waa lagu maqlayaa si toosaa lagu maqlayaa waalaikum salaam codkana kor u qaad magacaaga saddexan meeshaad ka soo hadlaysa maxamuud cabdullaahi faarax weeye walaal waxaan joogaa muqdisho oo maxamuud ku soo dhawo barnaamijka waa mahadsantahay walaal aad baa u mahadsantahay waa ku dhowahay niyahow qoftaan dad badan oo ka cabanaya waan arkay niyahow marka qoftaan waxaan ku leeyahay isaga ku socotid kuwad hala sheergarayo muslimka hala gaadhsiiyo uma qoftaan ilaahay ka qabto ummadda ay halaagayso ilaahay ka qabto qoftaan aamiin aad iyo aad anaguna waa sheergaraynaynaa waana kugu taageeraynaa haddii soomaaliya timaadana dacwad baan ka gudbinaynaa insha allah aad iyo aad baad u mahadsantahay jazaaka allah khayr soomaaliya adduunka waa la helaa shilimaadku waxba ma taraan shilinku maanta ku soo galayaa wuu baxayaa isnatin laakiin ilaahay baan idinku dhaarsheeye ilmo yar oo dhibaataysan oo gaajaysan inta aad siisay $50 waxaad tidhahdaa aabbahay baa ifara xumeeyey dheh yacni hooyaday baa gurigay joogtay dheh ilma iga waa tee hooyada iyada oo guriga joogta ninkii dhalay ilmahani uu fuulayo ay uur yeelanayso hooyadu waxay ogaataa iska dhaaf gabadheeda uur leh waxay ogaataa taymka gabadheeda yar caadadu ay ka imaanayso iyo taymkay ka tagayso hooyadu taasay ogaataa gabadheeday kaantarooshaa ilaahay baan idinku dhaarshay brogaraamkii ay keentay ay lahayd gabadh baa aabbaheed fuulay oo uureeyey waa brogaraamka aan hana abukar ku dabagalay ugu horreeyey waa brogaraamka markii aan dhegaystay aan yaabay brogaraamka haddaan dib idinku daaro waad nixi doontaan gabadhi say waraysanaysay gabadhii odhanaysaa uur baan yeeshay hooyaa joogta koojku igu wasi jiray aabe soomaaliya ilaahay baan idinku dhaarshay hooyada iyadoo guriga joogta uu odaygii gabadhii uu dhalay war aabbe ilmo uu dhalay uma kacsado ma beenaan isku sheegnaa soomaaliya aabbuhu ilmaha uu dhalay ee biyihiisa ah uma kacsado ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliya kiiskaasi war wallaahi oo bilaahi oo tallaahi maanta $10,000 baan bixinayaa kiiskaas hadduu run noqdo haana abukad facebookaygaan siinayaa kiiskaas hadduu run noqdo aabbuhu ilmaha uu dhalay uma kacsado hamadi kama timaado iyana waxay tiri gurigiiba intay uur yeelatay gabadhii ee ka soo dhaco xinjiraa ka soo dhacay hooyadu waxay ogaataa gabadheedu maalinta baaluud ay caadada hesho waxay ogaataa taymka ay caadadu ka timaado dee ogaataa hooyadu seebaa hooyadu ay u ogaan weyday ilmaheedii oo uur leh halo 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 وعليكم السلام سوق ولا وكوسي تاني يا برنامجك magacaaga saddexani meesha joogto magacaygu kor u qaad codkaaga kor u qaad magacaygu waxa weeyaan han haye Sweden ma joogaa haye waxaan rabaa inaan dadkan u sheego waan ku dacweynayo waxaas wax jira maaha haye inaan qofkaas la iska qabto hadee dadkaas muslimkay dhigtay hooyooyinka keligoodna ma soo doonan karto hadduu qofku wax fahamsan yahay oo uu kala garanayo wax markaa la iska qabto haye intaasaan odhanaya aad iyo aad baad umahadsanta walaashay soomaaliya waxaan rabaa inaan weydiiyo yacni haana barnaamijkii kow aan 2 barnaamij ayaan haana ku qabtay number 1 waa barnaamijkii ay tiri gabar yar baa aabbaheed kursada oo uureeyey number 1 kaasaan ku qabtay number 2 waxaan ku qabtay barnaamij gabar yar oo u dhaltay beesha ciida galo ay tiri waa la fuulay oo agoon ahayd oo ay gabadhii soo hadashay fanaanada deeqdega oo isku family yihiin oonu la xidhiidhnay oo igu tiri anaa wax walba qabanaya gabadha lambarkeeda iga soo qaad oonu weynay ii diiday labadaas barnaamij ayay ahayn barnaamijyadii aan ku dabagalay marka kii gabadha aabbahay baa kufsaday gabadhii baa uur yeertay hooyaa joogta koojku aabbi ku fuuli jiray waa isku kaaji jiray ilma iga soo dhacay come on soomaaliya ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliya hooyada guriga iyadoo joogta inta odaygii hadduuba odaygu oday waalanba ahaa war xitaa aabbuhu hadduu waalan yahay ilmihiisa uma kacsado
ilmaha dhiiggiisa biyihiisa uma kacsado ma beenan isku sheegnaa hooyada ogaan weyday gabadheedii uur leh oo odaygii uu fuulayo xataa ma hadda oday qabin waa odaygii ka dhalay kuwa haana lifeka u soo galaya u doodayo maanta aniga adinka waxaana dhex taalla $10,000 dhex taalla wallaahi wabilaahi taala waan bixinaya intaas oo Soomaaliya ballan waxa igu ah diinta islaamka waa tan ka baxa hadii kiiskaas aabihii gabadha kufsaday iyo kiiskii hooyadii gabadha dhashay la soo xaqiijiyo wallaahi billahi taala 99 ka magaca Ilaahay baan ku dhaartay bixinaya lacag kuwa u doodaya haana ee daaficay lafta soo galay soo gala halo وعليكم السلام مقعد صدحني ماشي جوجتي magacayga xasan faarax baa la yiraahdaa indiana police baan joogaa حسن فارح برنامجك waad la socotaa barnaamijka waa la socdaa dib laagta aan la yiraahdo ilaa 2012 baan ku arkay social media ayadoo qaawan oo dhar xidhnayn oo xitaa waa aragtay iyadoo khamri cabsan oo niman meel maqaaxiya fadhiya sigaar weydiisanaysa anuu gooray muslim noqotay oo dadka u kaalmayso garan waayay waa naag wax kale ku jiraan waa naag la soo dirsaday ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ay dhibaataysan wax la'aantoo haysto xiriyaha qaxootiga ku jira meesha wax u qaban lahayd hadday iyadoo dabiir iyo leedahay dubnaha intay wax u tari lahayd inay ka faa'iidaysato oo ay xoogaa yar siiso oo tiraahdo aabbahay baa ii galmooday ma nin baa gabadhiisa u kacsada mise hooya wiilkeeda u kacsata waxaa tagga lagu arkay xitaa iyadii waxa la yidhi been waa la sheegaa laakiin been run u eg baa la sheegaa bal waxay naga dhaadhicinaysa ka waran hooyana wiilkeeda uma kacsato aabbana gabadhiisa uma kacsato waa wax dhici karaba maahaba midda kale hooyadu meesha gabadheeda oo aabeed hadduu taas haddaad leedahay way aabeed hooyadu xaggay joogtay ma raalli bay uga ahayd mise hooyadaasi ma hooyo indhalaaba waxay noogu sheekeynaysa ka war naagtan gaasha aan muslimka ahayn diinta ceebta ku ah iyo muslimnimada iyo soomaalinimada ceebta ku ah ee lasoo dirsaday ee laga dambeeyo ha laga qabto ummadda hadday dhulkii tagtana waa jaanis anuu jaanis baalka ku jira baan leeyahay anugu marka jeel ha lagu rido waxaa weeye shaqaha laga qabto aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad arka cali Soomaaliyay maanta sharadkaasaynu kala dhiganaynaa dadka lifeka intay soo galeen hana abukar daaficayo tobankaas kun miiska iga saarantahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi meeshaad joogtay magacaagaan ku soo qoraya aabbihii kufsaday adarayska magaalaa wada joogtaan qaarkii kiiskii gabadhii aabbaheed kufsaday u ureeyay hooyadii lan war Soomaalida Ingiriiska degan waa la wada yaqaanaa Soomaalidu waa family qura Soomaali kullu waa wada qaraabo iyo ehel waa wada qaraabo iyo ehel Soomaali qof aqoon ma jiro maanta Soomaalida gobolka Minnesota joogta marka loo qabiyo 3 meelood marka loo qabiyo 2 meelood iyo barkood kala si yaqaanana hadii la yiraaco in Cusmaan uu halkaas tagan yahay gabadhaas walaalihiin wiilkaas walaalihiin halkaas tagan waa la wada garanaya ninkaas ilmaadeen waa la wada garanaya haano London arintii ka dhacday ee gabadha aabaheed fuula ay soo tirsay hadday xaqiijiyaan dadka haana daafico wallaahi billahi taala tobankaas ku bixinaya Facebook-gayga password-kan waa idinku wareejinay waxaan sheegayo dhanna waa been waa dadkii daaficayay baan ka hadlaya aan fariintan u diraya dadka inta iska soo galaan dadka iska dhahliciyo dadkaasaan fariintan u diraya waatee hooyada waatee hooyaa tahay hooyada waatee iyadoo guriga joogta inta gabadheedu uuraysatay odaygii uu uureeyey qabay hadda odaygii dhalay gabadhani ogaan weyday war gabadhu hooyadu waxay ogaataa caadadu hadday ka daahdo halo السلام عليكم. وعليكم السلام magacaagu saddexani meesha ka soo hadlaysa يوم magacayga saddexan waxaa weeye cabdi codkaaga kor u qaad cabdi bashiir maxamed haye iyo waxaan ka soo wacay albeerta kana walaal waxba lagaama maqlay caadi ma ii soo wacday haddaad laana iga soo wacaysid
waxaan ku dhahay waxaan kaas soo wacay Albert Canada okay niyo waa ku salaamaya marka hore adiga iyo dhammaan dadka meesha ku jira ma garat haye salaan kadib niyo horta Soomaalida dhibaato badan oo aad u weyn baa haysta ma garat ha islaantaana in badan ayaan TV-da ka arkaynay dadka inay ceebayso oo ceebahooda daba gasho oo iyadoo aan sida hadda ninkii iga horreeyay sheegay iyadoo aan meelay islaam ku noqotay iyo meelay diin ku haysta midna aanan garanaynin in maanta ayadii ay macnaha waxa weeye Soomaali u soo dhigatay masaakiinta oo xaqoodii ay farqaha ku shubatay meel ay madka lagu sheegana aan la garanaynin horta arrintaas waa arrin hubaala ma garatay Soomaalida dhibaatada haysta ugu weyn waa qabyaaladdan iyo qabyaalad qof marka ay arkaan inta maaragtay TV ka soo hadla dhibaatada ugu weyn horeysa waa qabyaalad oo qofkii qaar baa ugu helinaya qabyaalad ahaan iyo dumarka qaarkood oo iska daacada oo dhahaya gabar dumar la maagaya ma garatay laakiin Cabdixakiin oo aad u mahadsan tahay sida aad Soomaalida ugu dadaalaysid oo runta ugu sheegaysid oo barnaamijyada aad baa kaga mahadcelinayaa niyo dhibaato weyn oo weyn jirta arrimaha habeenada ka sheekeynaysa oo aad uga helo waxa kamid ah caruurta oo la xado iyo jirka la gato arrintaas niyo arrintaas baa aad iyo aad baa kaga madcelinaya oo iftiimisay ayada kaligeedna ma ahan dad badan oo waxa waay shabakad weyn oo isku xiran waaye jirka ilmaha waa la gataa caruurta hadda sida hadda aad maqashay Soomaaliya oo dhan intii waa la dhameeyay waxa weeye inta kaliya oo lacagta la qaato waxa ka daranba dhibaatada kale oo maartay ilma galashada iyo dhibaatada mataqaana waxyaabo badan oo la faafiyo dumarka jirkooda oo la gorgortan ku jira niyow dhib weyn baa jira naagtaana koobay ka tahay shabakada Soomaalida masaakiinta dhib ku haysta ma garata aad baa markaa kaga madcelinaynaa niyow barnaamijyadaada waxaan kaloo kaa codsanayaa niyow barnaamijka islaam badan oo dumar Soomaaliya oo fara badan oo daalimiin ah jiro oo amarta midoo nabiga cayda ku jirto niyow barnaamijyadaada badi waana kaa madcelinaynaa diyaar baan kulnaa oo ka taagana walaalo aad baa u mahadsantahay maanta waxaan personal attack aan ku samaynayaa oo aan doonayaa inaan la hadlo dadka intay live-ka soo galaan difaacana Abukar xumaanta ku difaaca sawirkooda ay soo saartay ku amaana no war wallaahi waynu is garananaa intaasoo qof tobankaas kun haddaana bixin baan dhahay hooyadaydii i dhashay ee caawa aan guri dambayskeeda ahaa ee iga hoosaysa zina igu dhashaan ku dhahay haddii la soo caddeeyo kiiskii gabadhii aabbaheed kubsaday inaan adinkooda ku soo qoro gabadhii hooyadeed qoladoodii gurigoodii haye ilma yar oo London wadadiisa jiifa oo darooga dilootay Minneapolis maanta haddaan baxo oo laamigaas aan baxo Chicago Franklin istaag waxaan helayaa boqolaal Soomaaliya oo aan video ka duubo oo yiraahdo waxa lagu sameeyay yaa keeni kara ma keeni kartaan London baa wada joogtaan ma soo dhigi kartaa hadal iyo bakbak iyo dumar baa la necab yahay iyo waxaas looma baahna ma keeni kartaan halo aad baan kuu salaamayaa magacaagu saddexan meesha joogta Cabdixakiin waa Cabdiraxmaan waa ku talaabtay waxaan ku darayaa tobankaaga kun 5,000 baa wallaahi oo billaahi oo sallaahi waa deegareynaysaa telefonkayga magacayga waan bixinayaa haddii ay keenaan gabadhii aabbaheed dhibaatada u geystay gabadhaas soo diyaarisa war bal hadal bay hayaano sugniyo anigu iyadiyo kaashan u soo saaraya haddeer iyadiyo kaasha war anigu war iyadiyo kaashan u soo saaraya ilaahay baan ku dhaartay 10 kun idin ballan qaaday 5 kun oo kamid ah waa kuwaas 5 kun waa 5 kun iyo 500 weeyaan may ku dar boqolka waa 5 kun iyo 600 dollar waa lacagtan idin ballan qaaday waa dadka difaacahana Abukar ninka meeqad ku dartay adiguna wala 5 kun baa isku qoray telefonkayga soo ma aragtaan wallaahi oo billaahi oo tala Cabdiraxmaan Maxamed baa la dhahaa Cabdiraxmaan oo nin islaam ah tahay nin islaam waa u jeedan soo maaha amna baro waa u jeedan waa ka soo maaha xawaalad tawakkal baa ka qaadanaysa markay soo dhigto tawakkal baa ka siinaya 5 kun ku dhigaya ma garan okay waaya Minneapolis waa qaadanaysa haddii nala soo saaro reerkii gabadha aabbaheed guriga ku dhex kusan jiray oo hooyadii ka ilistay oo ilmaha ku dhex dhashay Cabdixakiin sheeko la soo alifay bay ahayd naa qaribanay cabsan bay ay ahayd oy wax soo siisay wax dacana maahan ilmahan
إن هذا إلهي كو أبوري إمقل إلهي كو أبوري أيان كو قد أرشي مقعا أو صدحان إيشاك نمبر كاقوا هيا وحوي عبد الرحمن محمد علي وي حاجات يوكا أنا والتراك درايفر بقى هاي وحان تقنا نوت دكورة فاركو حادي على الصاعة دايو نمبر كاقوا مقعا واحد نين إسلام باتاي أو مهر حلالة كل شيء أو sida ka muuqatana nin khiyaara tahay 99 magac ilaahay ma ku dhaaranaysa dagayso wiilal iyo gabdhaba dhalay 99 magac ilaahay ma ku dhaaranaysa inaad 10 kun ballan qaadi aad ku darasid wallahi waa ku daraya wallahi magac Allah waa ku daraya 10 kun ballan qaadi 5600 oo kamid ah hadda live baan u soo galiyay anoo saaw haya waxa igu ballan oo igu wallaahaya 99 magac Allah ku dhaartay inaan xagga bixinay وشرية طبعاً كانت اللي تركبها حلرين نلاصو عدايا وارتي واحد سمية بروف نلاصو بس هو كلام ده ما هيسنبه أنا مدى أنا قوة غير مدى أنا عبد حكيرو ومدى أنا جا قالوا يا هميك مركا مغلي مسكح هذا قلبي جاي يتمرك وكذا تلوين هو دوت تاني مروين أنت يا الله مرتوى يا مكرم oo inaad waxyaalaha aan ka dhintay waxyaalaha aan yaani maskaxdaydu gali la adhay weeye waa wax la qaadan kara maaha marka aan noo soo cadeeyaan gabadhan Soomaaliya ku socoto awraa hadda xakin ilma barana hadda yadoo kaalkayad waxa gabdhaha laba gabdhood oo jiraan kaalkayad ugu qabtay oo mid la yahay midna nolol ugu qabtay dadda watay walaalle dadka organiskooda iyo jirkooda dad baa ka ganacsado naagtaana kuwaasi qayb inay ka tahay laba weydiin gabadhaani qolashay adiray la shaqaysata waa qolashay taariikh la yiraahdo naagtan dadkay xiranaysa dadkay ku qaldaysa ma naagtan waa satanic group waay waa qof shaytaan inuu qof shaytaan yahay waxa ku garanaysa abdi xakiim dibaatada dhacday hal dhinac lagama tuso dadka gabadhaana weyn ma arkaysa dhahayso dibkii taayelkeed baa raadinaya weliba ma arkaysa gabadhan waa shaytaan jabaaran laakiin dadka taageersada doorta iyo u helinayo oo hooyooyinka masaakiinta ee tagan bay inta badan heshaa dadka tagan meel guri laga maqan yahay islaam marwa ah oo maskaxdeeda joogta gabadha fikirkeeda kuma soconayo oo qof nin ragaayo damiir lama kuma soconayo qofka ay ku socdaan dad masaakiin ah bay gabadhaani qalqalisa maskaxda ka qaladay haddana adaaba u soo baxay wallahi maalintaa ka hadashay cabdixakiin waa kuu duceeyey wallahi maalintaa ka hadashay waxaan dhahay cabdixakiin waagii hore dadka diinta caayo ayuu saa u soo qaban jiray gabadhaan too late baan dhaa markuu arka wallahi wax kale ma dhihin okay walaalkay gacaliya soo gal ka bax live-ka soo gal waxaan doonayaa inaan ku tuso lacagtii 5600 oo kamid ah hadda jeebkan ku haya anigu aan ballan qaaday oo igu wallaahaya soo gal live-ka soo gal Soomaaliyay hadal bay hayaan dadka haana abukar daafice live-ka soo galo aynu wada fariisano maanta aynu wada fariisano Data waa 5600 dollar kuma ujeedaan 10 kun ballan qaaday 4400 baa ka dhiman haddaan ku soo daraya right now weerkaasina 5 kun ballan qaaday waa 15 kun dollar ar wir soma ujeedaan waa ka wir baan idin dhahay hadal iyo baqbaq baa haysaane haddaan ballan waxaan idinka qaadayaa lacagtaana inaan bixiyo Facebook passwordka aan ku wareejiyo waa dadkii haana daafacaya live-ka soo galayaan ka hadlaya fariintani maanta iyaga khaas u socotaa gabadhii yarayda aabaheed kufsaday hooyadeedii la dhan joogtay odaygii qabiilkiisii waa la wada garanaya farda la isku hayaa la yiri maxaa la isku faani maxaynu been isugu sheeganaa wax aynu been dadkii live-ka soo galaya daafacaya baan doonayaa inaan la hadlo fariintani dadkaasay ku socotaa ingiriiska joogtaan soo qaada family keena 10 kun waa bixinaya wiilkaasina waa ku dhaartay xitaa wallahi oo billaah wiilku wuu dhaartay dhaar buu mara waa iga go'an tahay aniga magacaagu saddexan baan ku soo qorayaa ii soo dhig odayga qabiilkiisii maamada qabiilkeedii iyo ehel yihiin jiribku yahay reerku yahay waa la isku wada garanaya hooyada Soomaaliyeed
hooyada Soomaaliyeed waryaa haddii xitaa odayga laga maqal waayo islaanta reerkooda laga maqlay alle heblaaye gabadheedii odaygii ba lele saas been waxba yaan la isku sheegin Hana Abuukar waa kansar Soomaalida ku jira culimada Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan u sheegayaa xijaabkeeda laad saddeq waxa rumaysanina Hana waxay la shaqaysaa hay'ado organka caruurta kala baxa waxa ay baabi'isaa video ka duubta caruuraha waxa ay faafinaysaa diin waxyaalo badan hala iska ilaaliyo ugu dambayn barnaamij ka weyn ayaan soo galaya lacagtiina meesheeday taala dadkii Hana la ku daafacayo wala diraba la iska soo gala hal lagu daawado bakh ma jirto jeebabka buuxa sharaf baa inoo kala yaala passwordkayga iyo lacagtaas wallahi waa iga dhimataa facebookayga san ku wareejinaya hadaa soo dhigtaan cadaynta hadaa keentaan gabadhii aabaheed kufsaday oo kaliya wixii kale oo dhan Hana bal ha loo duuduubo gabadhii aabaheed kufsaday oo kaliya وبالله التوفيق برنامجك واكب حياة لكن من دنبين اسكوغو إيماننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته